markana waxaan rabnaa inaan barnaamijkeena gudaha u galno barnaamijka intaynan gudaha u galin ka hor waxaan rabnaa inuu noo furfuro gudoomiyaha madasha tala biirsi oo aan uga mahad celinayno in dad cilmiyeedkan soo qaban qaabisay gudoomiye Khalid Derow gudoomiye soo dhawow. waxaan u mahad celinayaa sidoo kaleeto aqoon-yahanada waqtigooda qaaliga ah noo huray xaqiiqatan barnaamijkan waqtigiisii buu joogaa oo barnaamij ku saabsan xorriyadda dalka Soomaaliya waa dal xaalado adag ku soo jira waqti dheer saad aragtaanna sanad kasto isbuuc waxaa jiro dabaaldegyo aan samayno ayadoo wax badan inay naga dhiman yihiin ay suuragal tahay sida awgeed dhalinyaradu maadaama ay yihiin mujtamaca qaybta ugu muhiimsan waa in ay isku dayaan in mar kasto wixii mushkilada oo jiro daaweyntooda iyo xalintoodaba sidaad ogtiin waxaa jirta oraah inta badan caan baxday oo ay dadka qaar dhahaan dhalinyaradu waa mustaqbalka berri xaqiiqatan waa loo qurxan yahay isla aan fikir ahaantayda dhalinyaradu waa mustaqbalka maanta iyo berribo taana waxa cadeynayo saxaabada nabigeena sallallahu alayhi wasallam Usama bin Zayd oo kala hadaan u soo qaato tusaalo isagoo jiray 18 sano ayaa waxa lagu aaminay ciidan ay ku jiraan waayeelkii saxaabada oo ay ka mid yihiin Abu Bakar iyo Umar 18 sano xalqiga maanta 18 sano qof Soomaali oo jiro hadduu isku dayo mas'uuliyad weyn inuu ku fikiro in la dhaho war waad yartahay u kaadi odayaal waaweyn baa hawshan kaaga fiican waxa weey markii dhalinyaradu ay dareemaan ahmiyadda ay bulshada u leeyihiin sida awgeed baa waxaan u dooranay barnaamijkan inaan rag dhalinyaro ah oo wax bartay ay falanqeeyaan bulshaduna ay ka faa'iideysato aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa annaguna inaan ka wada faa'iideysan doono oo u gaari doono inaan ka faa'iideysan doonaan rajeenaya aad baa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijkeennana wuu noo furan yahay aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciwaankan waxaa keenay waqtiga la joogo maadaama hadda aynu ku jirno toddobaadkii xorriyadda waxaa jira aragtiyo kala duwan oo dadku ay qabaan inta badan qaybaa waxay qabtaa in waqtiga hadda la joogo dabaaldega ama mashxaradaha la dhigayo in mudnaanteedii la joogo qayb kalena waxay qabtaa ra'yi ka duwanoo inay san jirin waqtiga hadda la joogo dabaaldeg la sameeyaa inuusan jirin wax badan ay naga dhiman yihiin marka si bulshadu aragtiyadaas kala duwan maadaama ay qabto si loo maaragtay ra'yiga bal loo falaqeeyo in aan doodaa qabanayo caawa halkan barnaamijkan oo daaran yahay sidoo kale barnaamijka marka laga soo tago aqoon-yahanada ka qayb qaadanayo idinkuna fikradiin insha Allah waa ka qayb qaadan doontaan haddii ay su'aalo noqoto haddii ay comment noqoto tusaale ahaan aad faalla ka bixinaysaan insha Allah idinkana waqtigiina waa ka qayb qaadan doontaan aad u mahadsantiin waxaan rabnaa markiina barnaamijkeena u guda galno si aan barnaamijkeena u furfurano bal ugu horeyn waxaan rabaa inay background-kooda ama tusaale ahaan background-kooda waxbarasho ama dadka dooda ka qayb qaadanayo inaan iyagana siiyo min hal daqiiqo si waqtiga maadaama uu ina kulaalayo waqti dambe xilli habeenina la joogo laga yaabana maaragtay inay kambaala dareemi kartaan inay maaragtay culaysyada iska badan yihiin marka si waqtiga aan u koobno min hal daqiiqo ilaa iyo hal daqiiqo iyo 30 second inaan maaragtay iyagana aan bal siiyo waxaan ka bilaabayaa dhankayga midig soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والسلام مرتي شرفته سلام كديب waxaan rabaa markii wadina mahad celiyo madasha tala biirsi oo soo qaban qaabisay kulankan muhiimka oo waqtigiisa ku soo aaday inta kadib waqtigu waa kooban yahay kuma sii dheeraanayo yani background-ka kala daan soo koobo anu magacayga waxa weeye Abdulqaadir Xasan Cilmi inta xagga ka aragtiinba waxaan nahay arday kamid ah ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalka Uganda waxaan nahay nin oo yani bachelor soo dhameeyay haddana candidate master oo master dhameyn rabo bachelor-kayga kale yani waa waxaan ku soo qaatay human resource management master-tana waxaan ku dhigtaa public policy and administration so inta kan joogay yani almost 5 years inta joogay 5 years kaas waxaan ahaa qof u soo shaqeeyay ardayda Soomaaliyeed oo inta wax ka barata hadday noqoto jaamacadda dhigto local guide oo International University of East Africa waan kamid ahaa yani xoghayaha guud ee jaamacaddaas oo ardayda Soomaaliyeed uga khidmeynayo waxa jaamacaddaas ay uga baahan tahay ya hadday noqotoba yani ardayda guud ee Soomaaliyeed ee wadankan ku nool iyo waxay uga baahan yihiin jaamacadda Uganda oo aan ka soo noqday gudoomiye xogeenka guud ee ardayda Soomaaliyeed dalka Uganda haddana aan nahay candidate master dhameynaa mar master insha Allah November tan soo socota 25 keeda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
waxaa la yidhaahdaa magacayga waxaa la yidhahdaa axmed maxamed ciise waxaan ka mid ahay ardayda dalka uganda wax ka barata waxaan dhigtaa jaamacadda Kampala International University oo loo soo gaabiyey KIU waxaan ahay arday bachelor ah oo bachelor dhameeyey inkastaan levelka masterska weli aan gudbin waxaan dhameeyey maadada la yidhaahdo Bachelor of International Relations and Diplomatic Studies waxaan ka mid ahaa dhalinyarta aad ugula shaqeynaysa dhalinyarta jaamacadda KIU ee Soomaaliyeed iyo gaar ahaan gilligeeda waxaan ka mid ahaa yani dhalinyarta maxaa la yidhahdaa reer Puntland oo badanaa xilal ugala soo qabtay marka waxa weeyaan marka waxa weeyaan soo dhawaada walaalayaal insha Allah waxaan rajeynayaa topigan caawa ka wada hadlayno inuu wax aad yani value xaggeena aqooneed oo sovereignty-ga iyo madax banaanida laga siin doono concept fiican ana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hergebna iska haya waa iiraan luqada waxaa madashan qurux badan inaa gambiya diidaya waxaa waaye magacayga waa cabdisalaan cabdirashiid maxamed ana arday wax ka barta jaamacadda Kampala International University Master of Project Planning bachelorkiisa ku qaatay waddankan waxaa imaaday 17ka dhammaadkiisa ilaa hadda waa joogaa waxaana ka mid ahay Gilly Union of Kampala International University oo waxaa u qaabilsanaya Minister of Foreign Affairs oo international jaamacadda dhigtaan Congolese-ka Kenyaatiga you name it kulli waxa waaye wasiir waxaa kale guddoomiye ka ahay urur Maani for Education Development Association oo beeskiisa Soomaali waaye waa vice president ahay oo mina gabdhaha iyo mataqaana iyo ilmaha iyo youthka si education u helaan waxyaaba soo simaada insha Allah waa kaas warwooyin jaalayaal iyo jaalooyin hoonayaal iyo hoonooyin gacalayaal iyo gacalooyin waxaan idinku salaamay islaanta islaamka u qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay mahad iskale subxaana watacaala backgroundkayga haddaan idiin sheego magacaygu waa Khalid Yuusuf Aadan waxaan ahay independent lawyer waxaan baajkayga kusoo diyaariyey gobolka Awdal magaalada Boorame khaasatan kuliyadda sharciga waxaan heerka master ka dhigtaa online University for Peace jaamacadda nabadda oo aan ka diyaariyo international law and diplomacy backgroundkayga waa kaas aad baa mahadsantihiin insha Allah caawa waxaan kala faa'iidi doonaa macluumaad aad badan waxaad haysaan ba anaga waxa weeye aqoonna waxaan haynaa insha Allah waa kala faa'iidi doonaa heerka xorriyadda maanta kow intaynu ciwaanka u guda galin waxaan rabnaa inaan horta bal is weydiino waxa la yiraahdo waa maxay madax banaani garabkayga midig waxa fadhiyo ninka la yiraahdo Dr. Axmed Maxamed Ciise sidoo kale Cabdiqaadir Xasan Cilmi yaa fadhiyo waxa ay qabaan ra'yi ah in maanta waqtiga la joogo aysan mudnayn in loo dabaaldego xorriyadda sidoo kale garabkayga bidix waxa fadhiya Cabdisalaan Cabdirashiid Maxamed oo iyo Khalid Yuusuf Aadan oo iyana qabo in la joogo ay mudan tahay loona dabaaldegi karo heerka xorriyadda dalkuna xorriyadiisu ay dhammaystiran tahay si marka aragtidaas aan intanada kalena aan uga qayb qaadano aragtida nin walbana aragtida uu ku diidan yahay ama aragtida uu qabo banaanka uu keeno barnaamijkeena rabnaa inaan guda galno laakiin su'aasha ugu horeysan rabnaa inaan isweydiino waxay tahay waa maxay xorriyad si aynu ciwaanka aynu ka doodayna aynu u fahamno ka waddankeena ahaan marka loo barbar dhigo xorriyadda marka la yiraahdo maxaa inaga maqan maxaynu haysanaa waxa xorriyad la dhaxaa weeyaan waa waddanka inuu helo madax banaani ka xoroobo waddanka gumaysanayay macnaha markii la leeyahay waddanka inuu helo madax banaani oo ka xoroobo waddanka gumaysanayay waxaana inta badan waxa loo saleeyaa afarta qodob oo macnaha kala yihiin yani permanent population inuu waddanka leeyahay dad joogta oo degan waddankaas macnaha dad waddankaas xornimo la siin karo oo degan oo doonaya inay xor noqdaan in la helo way marka koowaad marka labaad oo kale inay yani defined territory inay jirto yani dhulka waddankaas leeyahay dadkaas inay ku doodayaan in dhulkaas ay degan yihiin intaas oo xadkaas leh yani xornimona ku doonayaan oo dhulkaas xadkaas ay ayaga degan yihiin ayna ku noolaadaan ayagoo xor ah oo dawladdu gumaysanaysa isaga tagto midda saddexaad yani government not under others yani dawlad yani doonayso inay ka dhex hoos baxdo wixii yani dawladda Soomaaliya kale
waqooyigana waxaa gumaysan jiray ingiriiska koonfurtana talyaaniga gumaysan jiray hadda xilligaa joogno kale oo doodana kusoo aaday 16 juun waxaa xornimada qaatay gobollada waqooyi Soomaaliya kana qaatay yani UK ingiriiska macnaha dawladda xornimada marka macnaheeda madax banaanida ereyg madax banaani macnihiisu kooban waxa weeyaan yani dadkaas dhulkaas ku nool inay yani gobonnimo ka qaataan dadka gumaysanayo oo dawladaha kale oo ku soo duulay oo wadankooda haysta yani si temporary maamulay dadka marka la maamulayo oo la gumaysanayo yani waxa ay dawladdu ku soo duushay u salaysaa inayna ayaga ismaamuli karin ama ay awood u sheeganayso ay leedahay yani waa dadka wadada iska Afrikaana yani oo wax ma maamuli karaan oo xorriyad iyo madax banaani ay isku maamulaan ma lahan intii yani ka gaarayaan ayaga level ama hadaf iyo ajeedooyin ay isku maamulaan oo kale in gacanta lagu hayo inta kadib yani madax banaanidoo kale wadanka markuu madax banaani yeesho ereyga madax banaanida oo kooban yani wadanka markuu madax banaani yeesho wuxuu yeelanayaa xuduudihiisu soo xiranaya cariyo dhulba sidoo kale wuxuu soo xiranaya yani currency lacag buu yeelanayaa wadanka wadan wuxuu noqonayaa lacag leh sidoo kale ciidan buu wadanka yeelanayaa wuxuu yeelanayaa dawlad aqoonsi haysato madax banaan oo ka madax banaan yani markaas gumaysi wuxuu gumaysanayay intaas baa ku soo koobaya macnaha ereyga madax banaani qeexdiisa soo kooban ona ma santay gudum walaalka Cabdiqaadir Xasan markaana balan dhankayga bidix iyana aan siiyo waxaan siinayaa lawyer Khalid Yusuf Aadan bal soo dhawow maadaama oo dhanka sharciyadan wax badan ka garanayo soo dhawow doodana caawa waxa laga hadlayaa madax banaanida dalka intaana dooda la gelin hadda waxa laga hadlayaa falanqeynayay waa xorriyadda Soomaa xorriyaddu soo sheegay Abdisaaq waa wadan xag dhaqaale xag population laga haysto weeye isaan ogsoonahay wadankeena Soomaaliya 1960kii bay xorriyadda qaadatay wixii ka dambeeyayna waa la soo gumaystay walow aan jirna markaas maamul aad u liita laakiin hadda ay noqotay fast one dalalka kaliya hadda aqoonsiga hadday dhaqaale noqoto iyo hadday noqoto population iyo hadday noqoto land dhul hadday noqotoba hadda waxa weeye wadanka kaliya waxa weeye hadda Afrika haddii la dhaho kaalinta labaad ama kaalinta saddexaad soo galaya weeye marka xorriyaddu waa sidaas marka waxaynu rabnaa inaan doodayno marka gudaha u galno bal si iyana balayno wadankeena u barbar dhigno goormee la dhihi karaa wadan waa xor goormee la dhihi karaa su-aasha bal iyadana aan weydiiyey markaan Cabdiqaadir maxaa markii wadankeena su-aal kala dul saaranaya bal markii xorriyaddii aad inoo qiyaxday marka lama noo sharaxday ama noo divine garaysay marka la barbar dhigo wadankeena maxaa inaga maqan maxaynu haysanaa maxaana inaga dhiman bal aan markaana bal mar kale aan u gudbiyo dhankayga midig soo dhawaada ma santay gudoomiye waxa weeyaan xorriyaddii qeexay hadda ku laabtay yani waxa naga dhiman baa u maleynaa su-aasha inay tahay maxaa haysanaa maxaase naga maqan oo naga dhiman يعني horta xurriyaddii aan soo qeexay waxa haysanoo kale waxa kamid ah permanent population oo kale yani ma haysanaa dadkii wadankii dad shacab waa ku nool yihiin meel kama aadin waa degan yihiin waxa naga dhiman oo maanta leenahay waxa weeyaan definite territory macnaha xuduudihii wadankeena oo kale maanta markaa fiirino ka Soomaali ahaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo garanayo yani wadankeena maanta xaaladdu ku jira 2023 la maraya especially hadda anagoo kale waxa ka soo jeeda Jubbaland gobolka Gadag dawladda Soomaaliya yani intay ka gaarsiisan tahay baa ku base gareynaya wadadooda example gobolka Gadag wuxuu leeyahay xuduudo dawladaha Itoobiya iyo Kenya oo kale inta markaa ku fiirino kale dawladda Kenya yani habeen kasta gobolka Gadag ama adii Jubbada hoose oo kale Jubbada dhexe waxay ka sameeysaa duqeymo kale sidoo kale yani ciidamadeeda kale iska soo galeen wax illegal bay ku soo galeen yani dawladda Soomaaliya 2011 ay soo galeen sabab filayna dadka dhan ogsoon madaxweyne Shariif xilliga wadanka madaxweyne ka dawladda yani Kenya wax olgolaasha ma haysan ilaa haddana waxay ku joogtaa sida iyadoo yani waxay ku difaacataa danaheeda gaarka marka la fiiriyo marka waxyaalaha naga dhiman waxa weeyaan xuduudaheena oo kale hadda ma adka maanta oo xilliga la rabo la iska soo gali karaa lagana bixi karaa ciriya dhulba marka fiirino sidoo kale currency baa ku daray xornimada yani wadanka markuu lacag inuu leeyahay hadda wadankeena oo kale Soomaaliya lacag shilin Soomaaliya jiray hadda maanta qofka Muqdisho tago kale hadda mar Muqdisho ka imaaday shilin Soomaaliga caadi uu dhamaaday si saacada meel kasto aad joogtid waxa maqlaysaa 0.3 0.4 yani waxa la isticmaalaa lacag dollar wadankana yani wadan Soomaaliya joogna currency saxda in la isticmaalo lagu talagalay marka yani wadanku wadan xor yahay hadda Uganda joogna example aan hadaan sidoo kale Uganda lacag shilin ay leedahay lacagtaas shilinka baa wax lagu iibsadaa bir baa ugu yar 100 shilin ugu yar konto kun oo jaala ugu weyn yani shilinkaas la isticmaalaa qof ka maanta qaadato dollar qaadato dukaanada dhammaad waxna ugu gadatid qofku kula yaabaya yani ma yaqaan waxaan wuxuu aaminsan yahay wadankiisa inuu leeyahay lacag currency la yaqaano shilina Uganda shilina oo Bank of Uganda soo saaray yani kan asagina aaminsan in la isticmaalo
يعني problemka waddankeena ka jiro kale marka la fiiriyo waddanka markii gacantiisa ay waxyaalo badan ka bixeen waddanka sax weeyaan burbur buu soo maray dowladnimadeena waa burburtay ilaa 2000 ilaa hadda shirka cartu waxay ka dameeyay kale waddanka dib u dhis baa ku socday dowladaha ku meel gaar bay soo mareen 2012 dowladda cawda federaal la qaadanay dowladda federaalka oo kala dirtaan marka la fiiriyo yani basically xamar bay degan tahay marka xamar laga baxo kale madaxweynaha federaalka hadda maal hore qodobay waxa jiray shirar oo la qabtay oo looga hadlayay yani deyn cafinta Soomaaliya oo kale deyn cafinta Soomaaliya oo kale marka laga hadlayay yani shirkii waa furnaa Puntland oo kale ka maqnayd example Puntland marka yani waa state Soomaaliya loo baahnaa in shirkaas ka soo qayb gasho oo deyn cafinta Soomaaliya oo ku xiran tahay Puntland state Soomaaliya state-ka ugu weyn bay ka mid tahay soo marka madax banaanida waddankeena yani marka meel badan ka fiiriyo cirri iyo dhulba wax badan baa naga maqan saasila yani aad u mahadsan yahay aqoonyahan Cabdiqaadir bal markaan aynu dhageysano dhankan kalena bal iyagana bal ra'yiga ay ka qabaan maxay naga maqan iyo maxaynu haysanaa bal iyagana si su'aasha uga jawaabaan bal aynu hor dhigno markaan guys for coming a big number. Allow me to take this opportunity. ciwaanka meesha loo qoran waxay tahay waa heerka madax banaanida dalka waa the level of sovereignty haddaan qeexno sovereignty maxay tahay madax banaanid waa self governing state waay dowlad madax banaan iskeeda waxay u samaysan karto madax banaanid markaa maqatin afarna kugu soo dhacda la rabaa dowladda inay lahaato waa recognition dowladda in la aqoonsan yahay area of land dowladda inay dhul leedahay iyada gaar u tahay population inay leedahay soo walaalkii hore ugu dhawaajiyey iyo authority inay leedahay waddankan wax walba samayn karo waxaa jira labo kale oo loo qaybayaa jirto oo ah awood gudeed iyo aqoonsi dibadeed aa jirto maanta waa ognahay Soomaaliya inay leedahay awood gudeed oo ah in madaxweyne ay leedahay maamul dhisan institution ay leedahay marka awood gudeed kalena wadamo badan aa jirto ayagana waddanka hadduu kalitalisan ku jir xataa wuxuu leeyahay waa madax banaan yahay Uganda oo kale madaxweynaha iskaas intaas san laakiin waddan madax banaan waa ma dhihi karnaa marka waddankan waxa waaye waa gumeysi ku jira ma dhihi karno su'aalahan waddan hadduu boqortooyo hogaaminayna ma dhihi karno ma madax banaano maamuloo haystaa marka ka hadlayna aqoonsi dibadeed Soomaaliya caalamka maanta ay aqoonsan yihiin labo markii la gaaro munaasabada oo dabaaldeg oo kale wadamada oo waaweyn oo kale developed country oo soo hambaliyeen Soomaaliya كود لولي يوم تقانا إلى 3 جون 3 قرمي مدو وكلا لولي يرا قوامان لولي ديا مر مدي كرنا سومال الجميسي وجدت مدي كرنا جميسي ولي سجري جري جميسي نحال جميسي تأخذ كي مركز أسيق الله يأركينه ليتو سومال الحترة مسكين هي مركز واتسا وحاول شديها ولا كي أساس وهذا الكلية هذا عن إيه كرا أما خالد هانتي ما أنت أفريقيا كانت صدحات أما كانت لبعض بسوق ليا هذا يدل نقطة education quality education هذا نقطة عافمات كي هذا نقطة رقالي هذا نقطة وهذا الكلية هذا أقوان سيجا لا ترتمي كرا دنيا ذا كله إسكت أفريقيا إن وحوش شيء ولا الكي واحد كذا الفيسيو دقال أو كينيا waxaas wax iska yiri oo la xallin karo solution ah taas waxaan dhigi karaa waa siyaasad gaar ah mid waxyaalaha kaliya waxa weeye tusaale ahaan xukuumaddii hore Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxa weeye siyaasadda gudaha iyo midda dibaddaba aad iyo aad buu ugu guuleystay wuxuu sameeyey constitution-kii dhan ka sameeyey 3 kaliya oo aan dunida laga sameeyay Afrikada wuxuu sameeyey judiciary buu sameeyey legislative buu sameeyey executive uu sameeyey waa hay'adda kaliya oo dastuuri ah oo waxna waxa weeye xukunta waxna waxa weeye diida weeye asagoo hawshaas ku jira bay xukuumadii ku dhacda waxaan rajayn doonaa waxyaalaha kaliya oo dambana inay waxa weeye ilaahay idinkiis iska dhamaan doonaan mid kale walaalkay wuxuu yiri oo kale dalku Kenya wuxuu leeyahay shisheeye aniga khali ahaantayda de kulli ciidankeena ciidan waxa weeye constitution iyo nidaam waxa weeye procedure la weeye waxay leeyihiin ciidamada asluubta ciidamada waxa weeye booliska waxa weeye magacyo kale leeyahay afar weeye afartaasba
waa lagala xisaabtamaa mushaarkooda iyo amnigooda ma jidho dalalka kale afrikada ah ciidamo mushaar gooniya oo waxa weeye bilaa qaata sidaan ogsoonahay ninka askariga maanta wuxuu ku xisaabtamaa 250 ama 270 dollar bisha intaysa dhammaanba waxay ku dhacdaa lamarkiisa waa dalalka kaliya aan isdhihi karaan khaali ahaanteeda kaalinta labaad iyo dunidaba waxa weeye eebu soo gali karaa ilaahay idinkiis aad baa u mahadsanta aragtay ninka la yiraahdo Axmed baan rabaa inaan su'aal ku celiyo ah maadaama wadankeenu in duqeymaha iyo arrimaha ka hadashay xuduudaha oo kale tusaale ahaan inaga dhimayna sheegtay lacagta oo kale maaragtay inay naga dhimantaa sheegtay soo leysma dhihi karo wadanka waxa caqabada inay dalkeena tusaale ahaan ay Kenya oo kale tusaale ahaan ka geysato duqeymay wadanka gudihiisa ka geysato waxa sabab u keenay amni darrada wadankeena ka jirto kuma xadgudbayso xornimadeena ama madax banaanideena kuma xadgudbayso soo leysma dhihi karo بسم الله الرحمن الرحيم سؤال في عن وحاول يعني مركز إنك سؤالي يعني هذاك يجد شو سؤال شيء يعني ديارها ودن كسكسو قلاي دقيمة جدا ودن كذا عايو ودولة شيء يكفلون يسو سو كم إحنا يعني من درة جدا كجرت ودن كسومالي ساين تافل جواب السؤال هذا سا معناه لما دي كروج إن كينيا ده يسكسو قشوا يعني بورد ودن كسومالي ده يسكسو قشوا جدا السومالي دقيم كفل يسو لما دي كره يعني من درة السومالي كجرتو يجانس يعني كل شيء سببتها السومالي دولة بعد يعني كجرتو هذا إسكود يراتو وحاله بدنا نأكد من هذينه دولة كينيا مركا وحي يعني جانس كشيء إن ودن كان مانتي كويسته يعني عد كوري استاكتي سنجرين ودولة دي عن دول كذا وحدد لهينه دولة معناها إلا ده هاي هذا على الواقع كلك سوق ليسا حدوغينيسا قبل كده برتنج سوق كلك زمبلان دوغينيسا يعني حدود وحي سوجر يسا almost 3 كيلومتر قدام الصومالي سوق ليسا اسكو الله قبته أو إلا ده هاي مجرت الدولة كفل علينيسو وحماتها سميسي أما كعقد بيمانيسو بريكو قرا عنيسو ayay u sameynaysaa waxaan oo dhan marka lama dhigi karaa nibdarar gudaha Soomaaliya ka jirto yani Kenya u soo galaysaa gudaha Soomaaliya u duqeynaysaa waxa la dhigi karaa yani dawladda Soomaaliya ee waxay ka aragtay gudaha ummadda Soomaaliyeed ee is leedahay yani systemka Soomaaliya ma fadhiyo dawladda Soomaaliyana macnaha bari kaama daweymaan karto kuma raacan karto ayay gudaha Soomaaliya isaga soo galaysaa example-an hadda wadan baa joognaa wadanka Uganda oo kale xuduud u leeyahay dawladda Isayaan Rwanda way Isayaan DRC Congo kale way Isayaan problemyo badan ay ka jiro ciidamo waxa joogo hadda yani Uganda ka soo jeedo DRC Congo joogo waxa jiro wadankan ka soo jeedo oo madaxweynaha diidan dawladda Uganda haday iska baxdo oo diyaarad helicopter ka kacdo DRC Congo haday gudaheeda u gasho ma duqeyn karto ragayga mucaaradka soo marka lama dhigi karo dawladda Kenya iyadoo al-shabaab raadinayso iyo Soomaaliya iska soo galaysaa wayna iska duqeynaysaa carabtay falaysaa baamishan laan soo marka saa ugu jawaab su'aasha aad u maastay waxaan rabaa markaan inaan Khalid balasna iyo dhankayga bidixna inaan iyagana bal su'aal ku ceesho sida hadda meesha ka muuqato tusaale ahaan wadankeena oo kale sida walaalka Cabdiqaadir uu ku doodayo wuxuu sheegay tusaale ahaan in wadanku waxyaabaha inaga dhimada in ay ka mid tahay lacagta waxa kale oo sheegay in naga maaragtay naga dhiman tahay xuduudaha kale hadda tusaale ahaan oo kale hadii tusaale u soo qaadana badii Soomaaliya hadda maxkamadda inoo xukumisay waxa dad wili jirtay in wili Kenya aysan ka bixin soo marka la isma dhihi karo xornimada iyo madax banaanida ama gobonnimada aynu ka hadlayno wali waa naafo inkastoo micnaha ay nala aqoonsan yahay dunida dawlad Soomaaliya inoo aqoonsan tahay soo leesma dhihi karo wali gobonnimadeena ma dhameystirnay waxba ka dhiman soo leesma dhihi karo ashkuru aad baa maasan tahay waana su'aal muhiim ah su'aasha ay weydiisay waxa weeyaan waxaan ugu jawaabayaa horta wadan walba daris baa leeyahay Ukraine iyo Ruushka daris weeye up to now na dagaal baa ka socda waana xaalad waxa weeye gudaha iyo mid dibadda ah xaalad waxa ka socda dagaal waxayna ka mid tahay dunida dalalka hormaray bay ka mid tahay meel walba waa jira calaqad iyo challenge waa jira Kenya soo hadhay Kenya Soomaaliya way faragelisay waxa keenaya agreementiga iyo heshiisyada naga dhaxeeya Kenya waana jiraan dunida kale waa soo arki kadhaa ama waa soo qiimeyn kadhaa research waa sameyn kadhaa inay sameeyaan waxa weeye Ukraine iyo Ruushka oo kale dagaal baa ka socda Mareykan iyo waxa weeye haddii alla ku idmaayo waqooyi Korea dagaal baa ka socda tabtaas meel walba waa ka jira marka taas waa iska dhamaanaysaa mid kale soo haray waxa weeye badda 100%
waa lagu guulaystay xukuumaddii hore ku guulaystay maxamed cabdullaahi farmaajo kumuusan fashilmin arrimo waxay ahayd siyaasadeedu dibadda ah wasaaradda dibadda arrimaha dibadda ahayd aad iyo aad buu ugu guulaystay waxyaalaha keliya oo hadda soo haray waa jasiirad weeye jasiiraddaasna agreementigii ugu badnaa hadda up to now xukuumadda xasan sheekh uu qabsaday waxay waraaq ku saxiixeen in loo fasaxo qaadka oo keliya jasiiraddiina ay dib u soo celiyaan jasiirad bay haystaan ma haystaan badhan jasiiraddaasna waa qariirad yar weeye qariiradda inay soo celiyaan qaadkana waxa weeye iyo howlahaas agreement dalalku agreement waa gala iyo heshiisyo dhaqaale marka waxaan waxa weeye taasna waa iska soo dhammaan doontaa insha allah waxa kaloo hadda jira oo carqalada oo challenge hadda Soomaaliya ka jiraan ma jiraan aad baan u mahadsantaa walaakiin waxaa ka dhawaa dhanka xuduudaha xuduudaha hadda waxaa noo jooga dowladaha oo mataqaanaa intaa ku leenayo oo AMSOM ah AMSOM oo joogta waddankan maandeeda ku joogtaa waxaa la rajaynaa 2024 December inay ka baxaan waxaan rajaynaynaa AMSOM waddanka maandeeda ku joogtaa waddankan horta xor waaye AMSOM maandeeda ku joogtaa sanadka soo dhaaf 3 kuna ka baxday sanadkan September waxaan rajaynaynaa 3 kun oo ciidan inay ka baxaan 19 kuna joogtay 14 soo haraysa 2024 December AMSOM waa ku deeyan ciidankana waddankan la wareegayo waddankan saasoo nadiif ku noqonaa xagga Soomaaliya go'aan ma gaari kartaa oo masiirka dowladda liisiinaysa oo kale waxaasoo kale way samayn kartaa waa dowlad madax bannaan su-aal baan rabaa inaan dibidi kugu soo celiyo ah Khalid wuxuu ka dhawaajiyey in Kenya loo ogolaaday in qaadka loo fasaxo si ay jasiiraddii uga tagto so yani weli soo leesma dhihi karo waxaan aniga dantayda fuli si aan waxaada ku siiyo weli soo leesma dhihi karo awoodii waxaa macnaha awood aad waddankii aad ku difaacato ma jirto soo aydan weli leesma dhihi karo meesha su-aasha kuma jirto abshukurow aad baa u mahadsan tahay adduunka dunida horta wax walba waxay leeyihiin heshiis bay leeyihiin heshiisyadu dalalku waa sameeyaan saa ogsoon tahay ruushka iyo waxa weeyaan iyo Ukraine waxyaalaha kaliya ay isku qabseen waxa weeye waa dhaqaalahaasna waxa weeyaan containerada la dhoofiyo oo adeegyada macmalka in waxa weeye waddanku ruushka saa ogsoon tahay hub ay samaystaan hubabka ay samaystaan waxay ka sameeyaan agabkan waxa weeye birahoo kale awal waxay u dheefin jireen sanadkii ama bilihii intaasoo containera oo bira ah wixii ka dambeeyey waa joojiyeen waa agreement lacag bay ku qaadanayeen waa joojiyeen hubabkiina waa ku yaraaday ilaa sababta ruushka waa waddanka kaliya waxa weeye hub iyo waxa weeye iyo waxyaalahan hubabka looga dambeeyo marka meel walba agreement waa ka jiraa Kenya badda iyadu ma lahan way ku fashilantay jasiirad bay waxay tiri anaa iskale dhaqaalaan kala baxay xukuumaddii Sheekh Shariif Sheekh Axmed evidence baa la keenay bannaankay soo istaageen wada hadal baa miiska loo saaray Chad garsoorayaal baa fadhiyey xubno saraa fadhiyey odayaal baa fadhiyey waxay ku kala saxiixdeen waxa weeyaan awal dhaqaale meesha kaliya aan ka heli jirnay waa qaadku waddanka waxa weeye constitutionkiisana laguma soo darin oo lama dhihin qaadku waa lama noocayaa oo waxyaalaha kaliya ee agreementiga ay ku wada hadleen in qaadkoodana loo fasaxo jasiiraddana ay celiyaan sababtoo hadda jasiiraddana waa ku fashilmeen qaadkoodana dhaqaale ka heli jireen meel kaloo hadda dhaqaale ka soo gelaysa ma jiro taasna dee ma dhihi karo waxa weeyaan dagaal baan la samaynaynaa ma dhihi karo meel walba agreement iyo waxa weeye wada hadal baa ka dhexeeya iyo dhaqaale iyo business sida loo sameeyo marka Soomaaliya weli hadda dee jawaab hadda waxa weeye ay tiri waan ogolaaday ma jiraan mar bay diiday oo xukuumaddii hore oo dee waddanka lama keenin si tartiib waddanka loo soo gelinayay ma in constitutionka weli constitutionka waa qabyo ma in constitutionka lagu soo dari doono la dhihi doono Kenya wax agreement oo naga dhaxaynaya ma jirayo oo waxa weeye ciidamadana waa la baxayaa qaadkoodana ha naga joojiyaan constitutionka laguma soo darin weli wada hadalkii waa socdaa laakiin waxay rajayn doonaa inay iska dhammaato taasna insha Allah
laakiin kuma fashilmin Soomaaliya oo ma dhihi karo Soomaaliya xaggaas gabaabsi baa ka dhacay weli wada hadalkii waa socdaa aad baa mahadsantaa aad u mahadsan yahay Khalid sidoo kale bal su'aal kale bal iyana aan hordhigo garabkayga midig oo ma wax su'aal aan qabo iyadaan rabaa inaan su'aal idinka weydiiyan gudaheeda sida Khalid sheegay waxa ay Kenya ku soo gashay gudaheena ama tusaale ahaan dalalka shiyo faragelinta nagu hayo dhan macnaha waa heshiisyo ama is-afgarad inay tahay xuduudaha kale kuwa micno wuxuu ku sheegay in wadanka wax Kenya iyo Soomaaliya isku wada ogyihiin inay tahay marka maxaad adigu ku diidan tahay oo weli aad u leedahay xornimadeennii waxbaa macnaha ka dhiman oo aad maaragtay taa dooda amar bal kaga jawaabaysaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaa ku diidanaya doodaas walaalkay Khalid waxaa kamid ah oo ugu waaweyn yani waxa hadaladiisa kamid ah dawladda Kenya waxay kula dhilgalisay dawladda Soomaaliya si yani loogu celiyo wixii loo xukmiyo adduunku xukmiyay Soomaaliya in iska lahayd oo rabtay dawladda Kenya inay yani boob ku qaadato kaga faa'iideysto burburka Soomaaliya ay kula dhilgalisay dawladda Soomaaliya in loo fasaxo qaadka si ay jasiiradaas u sii deyso meelis waxay ka dhigan tahay still wadanka sovereignty-giisa oo kale waxa ku jiro qalqal oo ah in dawlad shisheeye ay kugula dhilgaranayso gudaha wadankaada waxa ka jiray yani waa la isdhaafsan karaa adduunka waxa ka jiro business oo waa jira export import waa jiraan dawladda Kenya example hadda qaad bay Soomaaliya keentaa maalinkii waxay keentaa almost dhowr milyan oo dollar lacag ay Soomaaliya ka qaataa oo qaada Soomaaliya waxay keentaa cawskaas ay keentaa oo yani wax negative mooyaan wax faa'iido ah kuma qabno dawladda Kenya yani dawladda Soomaaliya kale waxa jirtay inay wax u dhoofin jirtay sida sokorta oo kale yani ya Kenya loo dhoofin jiray Soomaaliya dhoofin jirtay way joojisay dawladda Kenya يعني business ka waxa la rabaa inuu integration noqdo oo business export iyo import yeesho markay dawladda Kenya noo keento qaadka faa'iido darnaade waa inay yani waxa gudbin lahayn oo dadka Soomaaliyeed ay wax ku faa'iido lahayn ganacsatada Soomaaliyeed oo kale ay dawladda Kenya qaadan karto yani waxa gudaha Soomaaliya ka imaanay dawladda Soomaaliya waxay dawladda Kenya waxay u diiwaan gelisay wax inay yihiin yani dhacay dhamaantood oo date expired inay yihiin bay u diiwaan gelisay soo marka lama dhihi karo yani dawladda Kenya doodu kuma qurux badnaanaysa in la dhaho wax gudaha Soomaaliya ka jiro bay Kenya kugula dhilgareynaysaa Soomaaliya inay wax ayada ay faa'iido ugu jirta Kenya loo fasaxo ay ayna ku celiso baddaas Soomaaliya yani waqti badan ay gelisay siday kolkorobada Kenya doodeeda ku furatayba inta kadib waati yani maxkamadda Soomaaliya xukmisay ilaa hadda xitaa gacanta badda Soomaaliya kuma soo laan Kenya ma mushkilada meesha ay waxaana ka dhigan tahay yani problemka ka jira gudaha Soomaaliya awood la'aanta dawladda Soomaaliya iyo madax banaanida oo ay qayb weyn ka tahay meel uu caalamka ku xukmiyay in yani wali lagu maamulo hadda example aan kale wuxuu soo qaatay walaalkay yani Ruushka iyo Ukraine kale soo qaatay Ruushku wuxuu ku doodayaa yani dhul NFD oo kala cad maanta Soomaaliya dib ku dooda NFD oo dhacda anaga iskale waa sax dadka degan waa Soomaali NFD markii hore Soomaali bay ahayd yani Ingiriiska wuxuu siiyay Kenyan u xukmiyay anyway nooc raba ku sii Ruushku wuxuu ku doodayaa yani jasiirad iyo wadanka la Ukraine dhul wuxuu gaystaa NFD oo kala oo dad Ruushiyana ku nool yihiin oo loo baahan yahay wadankooda ku soo laabtaan markuu wadanka dagaal ku soo qaado kale oo wadanka asay macnaha gobolka asaga qabsado kale gobol weyn adiga bilaaran buha يعني dadkii doorasho u qabtay ma qaan waa ku waraysin ba umaleynaa dhamaantiin doorashadii waxay u codeeyeen inay Ruushku biiraan dagaalka markuu xaasabay reer galbeedka oo ka soo horjooda Ruushka yani inay awoodiisaas badan oo faafayso oo Ukraine hadda waxa lagu sameeyay kale inay ka warqabtiin oo kale yani waxyaalaha nuclear-ka kale lagu sameeyay warshad sameeyay ay ku tal reer galbeedka markuu waxay ugu talagaleen bari inay yani Ruushka isaga celiso oo yani Ruushku lagu jabiyo marka dagaalka waxa sabay Ruushka asaga faa'iido raadinayay annaga maxay tahay faa'iidada ku qabno yani inay Kenya qaad noo keento جزيرة ولا هيستو بدي هيستو فإذا كم قمنا رواية بالجواب تسني سيان ولا لا aad baa mahadsantahay Absaaqow su'aashaas nasi dib li aan kaaga jawaabayaa Kenya waxaa tiri bad bay haystaa bad ma haysato halka iska dhig badda waxaa tiri qaab bay noo soo dejisaa jasiiradina waa haysataa baddii iyo jasiiradii ma haysato taas sharci iyo dad waxa weeye garmaqal ah lawyer leh waxa weeye jaad wax walba isku jira baa hawshaas ifadhisiyeedii halka dhigay jasiiradna ma haysato badna ma haysato jasiiradaas waa la weydiiyay waxa la yiri ma haysataa baa la yiri ma leedahay jasiirada waxay ku andacootay waa leeyaa dhaqaalaansi xukuumadii Sheekh Shariif Axmed Sheekh Axmed iyo xukuumaddiisii ragga wasiirka arrimaha dibadda iyo gudahaba u qaabilsanaa ilaa wasiirada eedaaba loo yeeriyay
waa loo yeeray iyo ra-iisul wasaaraha oo markaas ahaa haddii alla ku idmaayo cabshiid cumar cabdishiid cabdishirmaake waxaa la yidhi haye lacagtii ma bixiseen may meel cidlaa ay ku soo dhacda marka meeshu waxay leedahay sharci iyo nidaam bay leedahay procedure kenya halkaasoo ku fashilanta baddii istila xoogsatid waa ku ambata jasiiraddii waa ku ambata hadda waxa weeye waa qaadkaa waxay soo dejiso qaadkaasna weli constitutionka laguma soo dareen wax walba waxay leeyihiin constitution bay leeyihiin iyo dastuur dhehaya articalkaas baa qaadka ka qaba in waddan shisheeye qaad noo keeno ma jiro constitutionku waa qabyo dhowaan waxaa la rajayn doonaa ilaahay idankiis sanadaha soo socda inuu dhammaystirmo galyaqaano iyo rag garsoorayaala baa loo saaray inay dhammaan doontaa insha allah rajaynayaa marka weli kor baa loogu hayaa waxa weeyaan xukuumad cusub baa timid xukuumadda cusubna 6 bilood baa loogu talagalay in magaranaysaa waddanku ay hogaaminteeda iyo nidaamkeeda hogaamiso odayguna sanad buu hayaa welina kor baa loogu hayaayo qaadkooda way soo dejiyaan ilaa xukuumaddii hore ka horreysay ay joojiyeen marka waxaan rajayn doonaa sida hadda aan xogta u hayo ama aan proposal research ku sameeyey in qaadkaasna uu xirmi doono insha allah ilaah idinkiis marka aad baa u mahadsantaa bisaaqu walan aad u mahadsan yahay okay barnaamijka waxaynu kaga faa'iidaysanaynaa inaynu dooda waxa loo qabanayo barnaamijka in dhallinyaradu inay ra'yiyadooda ay isweydaarsadaan sidoo kale idinka iyo aniga oo meesha fadhiyaba su-aalaha inaga dhex guuxaya iyo aragtida inaga dhex guuxaya dhammaanteenna waa wadaagi doonaa insha allah marka markaan cabdiqaadir aan barndhiibay ahay بسم الله الرحمن الرحيم وحاويان وحير وحجر وروينا ضد إذا نكوي رحوتشيو معنا إنه يلا ضد وحجرنا يعني ودن كنا مدح بناني دي السنة يقول قلق الكجرتو ودن يعني مدح بناني السنة قلق الكجرتو معنا ضد نحوجنا ينوبه عن اللي يرفع قدر جرو يعني هذا ودن الصومالية 1991 كيو بربرسا ودك سونا ماشي أنا ده حقوق قانون ارتكل معناه ونكاسو كل الله يربى أمبلين وبارك را يعني واحد لواتني أفرتي أبريل 1992 qodobo waxaa jira waa United Nation ka macnaha councilka qaybta security-ga ay ugu tala gashay wadamada republic country-ga ama burburo is maamuli karin si temporary aan loogu sii maamulaa jiro hadda example aan Soomaaliya lambar ay ku leedahay meesha ayada still lambarka asagana waa jira wadanka duu madax banaan yahay oo yahay wadan asaga is maamuli karo awoodiisa gacantiisa ku wada jirto qodobka waa baabila waa isla yahay waana kugu soo celin doonaa qodobka waxa la 751 weeyo yani still Soomaaliya waxa weeyaan under United Nation Council security way still Soomaaliya ta soo marka still wadanka madax banaanidiisa loo dhigi karo wax baa ka dhiman maadaama qodobkii loo sameeyay 1992 up to now wali shaqeynaayo wadankana under United Nation yahay oo na reference ina kugu raacin karo yani hadda wadanka Soomaaliya kala sanad walba markuu dhamaado warbixin baa laga gudbiyaa United Nation ka loo gudbiyaa General Assembly-ga la horgeeyaa waxay leeyihiin ergey u soo doorteen oo yani loogu talagalay Soomaaliya warbixinteeda inuu geeyo waxa ka dhacay sanadkan oo kale maalin madaxweynaha Soomaaliya shir buu ka qayb galay wuxuu ka tagay United Nation u tagay Washington u tagay shirka ku saabsanaa waxa lagu doodayaa adi kalaami janjiga lagu doodayaa laakiin dooda asaga wuxuu watay yani laga qaado Soomaaliya una qabatayn toobka kala dan meeshii madaxweynuhu waa hadlay hadalkiisii oo dhan waxa baabiyo ignore gareeyay naagti maar la soo magacaabayo dhahaysay yani ergey gaarka Soomaaliya ahayd waxay dhahay Soomaaliya waa dad yani lama siin karo hub waxba gacanta looma gelin karo still waxay joogan meeshii hore oo waa dad dagaal baa wadanka gudihiisa ka jira amal oo kale waxay sheegtay dagaalada hadda la saanaad ku socdo kale garow wixii ka dhacay sheegtay yani xuduudaha gobolka Gedo kale problem ka jiray sheegtay براو وحي كجري sheegtay wanaagday wadankii joogtaa oo loo warbixinayo Soomaaliya oo warbixinayso sidoo kale waxay sheegtay wixii ka dhacay Hiiraan sidoo kale inuu cali jeeyta xitaa madaxweyne sheegtay ku jirto waxay sheegtay soo marka soo lama dhigi karo intuu qodobkan jiro 751 kan oo Soomaaliya under United Nation Council ka tahay soo lama dhigi karo wadanka wali madax banaanidiisa waxba ka dhiman oo ina 26 June inta aan la urdilayn yani calaamada soo ina yani fikrad kale ku bedel maalintaas oo aan sameeyno macnaha hada isku imaano idea kale la imaano oo yani wadanka ku xoreyn karno oo gacanteena wax walba ugu soo celin karno ومامولكنا عادي ولا قاعدين كرنا دولتنا إنه نقول كرت دولة اللي جيسن كرو عاد مدحنا إنه كل مالور مدحنا جيبوتي وتجي إكزامبل لدين سيوكله ولا كل مدحنا كينيا جيبوتي وكعص صدي يعني لاتني أفرتي بحيان بيرجع دين هذا ماذا كان هذا ماذا يعني أمس ودن كجوا كله مدحنا كين يروح يردن كي إلا الصومالي نبات كنا غنيس وجوا يعني مش يعني أود كل هاي معهن ميدو أسير سكوك جاي وحوي يعني ودن كحبك كتيرين
ciidankiisana si shalay illegal kusoo galeen maantana ay illegalkii kusii joogi karaan buu yani ka wada hadalkiisa markuu madaxweynaha soo jeediyey uu yidhi waqtigii loogu talagalay 6 bilood muddadii cayr baa ka dhiman waxaan rabnaa inay ciidamadiina la baxdaan ciidamadaanada amniga la wareegi karo wuxuu yidhi ciidamadeeda way joogayaan anaana dana annaga alleenoo dowladda Kenya leedahay gudaha Soomaaliya u joogayaan buu soo marka madax banaanida aan hadda sheeganayno kale oo 26 Juun iyo 1 July yani aan u ordayno calaamada u qaadanayn Soomaalida isugu soo baxayn one day-ga ku kooban adina bari loo laabanayo in walba statekiisa iyo reerkiisa u laabanayo wax badan aan naga dhimo baa la sidii karaa saamsanaanay marka qodobkaasna bal waxaan indirayaa risaajan ina ugu laabatiin 24 Abriil la sameeyay 1992 751 waayo under United Council Resolution Soomaaliya still ta ama santiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا مقعي واحد محمد عيسى. وحويان دود أدو قاليا ماشي كسعتي وحويان غيرتنا أدو سوق البحن وحوي إلا دلكي وحويان فورين كي انترنال كي ولا جهالي. أنا وحويان وحكو حوتشنا يا أنا كهلا يا بوينتس كي أيمنايو ولا جهال اللي هاي سوفينيتيجا مسوي حلو يقانو أفكار اللي يقانا سوفينيتيجا مسا سيادة الدولة أو يعني مدح بنانا دلك مدح بنانا دلك وحوية سانو أركو وحويان وينو الدولة أود بحذا كلها تا يعني محلي هذا حدود هذا أنت جودها دلك هذا كصعوده from عرف تعرف وين كلها هنكرتها محلي هذا سيادة أو مسا كنترول كلها هنكرتها قول هذا محلي هذا international لوجا يعني scholars كودانه ويكون قيحين sovereignty إن تهاي دولة دوين لها تو يعني بلشة جوكتا شعب جوكتا أو population وحاكلو ليرا هذا إن لها territory أو محلي هذا حدود إن لها تو محلي هذا إن دولة لها تو دولة داسونة أيسن هوستجين دولة يعني كله سيدا هذا مستلي واحد جرت توبيك أو أدو قاليا جالان لاينا نذو ذا جوه سيدا الدولة إيدو سوفينا هذا دولة هوستكتا for example لو حقوق في الدولة كندا يا دولة نورثرن ايرلاند وحكم إذا تايوان وحكم إذا تايلاند دولة ده يجو دولة سوفينا وهذانه أد رينج كذا سكوب كذا جارو إلا فورين أفير كجارو هذانا واحد هوستك تا كراون هذا سيدا كندا وكلا يا نورثرن ايرلاند وكلا محلي الدولة ده كاريبيان وكلا واحد هوستك عند بقرطية ده كينغدوم اوف بريتش ومحلي هذا وكتليو كينغ تشارلز تو أساساً جعلانه هاي مركو دولة وين يسند دولة كوسنولان محل يراه ذا يو كلا وين دولة لها تكباسيتي بلا سكوب كده وين وقاري كلا إن لا تعامل كرت الدولة ده درس كا الدولة ده هذا يعني وبنان كحدود هذا كا مركو حوي سوفين كا وحنا وين دي بوينتي كقومي مسوي حوي مركو ده هذا عندها تلمامي وحوي دولة دو وين independent تاع مدح بناني لا هذا هيو ورنجي كده وقاري إلا أنت marka waxa jirto characteristic ay leedahay dawladda madaxa banaan oo aan jeclahay maadaama topigeenu ka hadlayo Soomaaliya aan ku soo koobo 3 point ila 4 point characteristickaas wuxuu ka mid noqon karaa territorial balance integrity inay lahaato dawladdu waa inay lahaataa xuduud cayiman oo maxaa ka mid ah dawladdu waa inay lahaan kartaa maxaa la yiraahdaa full right inay ku lahaan kartaa inay ka howlgasho dalka gudihiisa waa inay policy soo saari kartaa وأنا regulation كياني كرتا وأنا treat وكقابن كرتا دلقيس أديكو وأنا مامل بحق الله هان كرتا حدود هذا مدة لبعض وأنا دولة دو مدح بنان تاي ومدح بنان هذا وعن كودا دولة دو وأنا decision making كذا لهان كرتا وأنا اللويرين كارين وحي قبنا يسوق يا وحي سمينش internal كذا economical stability وين أستا وأنا لها تا economic محل هذا decision making كان وإيدي لهان كرتو سيد IMF تو كلنا يسان interview كلها هان كارين يسان كلها هان كارين World Bank for example waxaan ugu filan maxaa la yiraahdaa dawladda Malaysia waxa noo kamid ah dawladda Turkey full waxay bixiyeen dhimaanka iyo deynta ay ku leedahay dawladda maxaa yani international World Bank-ga iyo IMF to marka midda saddexaad oo aan ku dar lahaa waxa weeye recognition-ka dawladdu waa inay aqoonsi lahaan kartaa mise i'tiraaf waxa la yiraahdo dawladdu waa inay ka i'tiraafsan tahay qaramada midoobay international community-ga iyo dawladaha caalamka soo marka maadaama aan kaga hadalnay maxaa la yiraahdaa Soomaaliya oo aan ku jiro qaybta negative kodayso waxay dabaaldega iyo mashxaradan anagoona wali waxayna ranjigeeni iyo scope-kan noo buuxin waxaan ku leeyahay dawladdu waxyaalaha ay sovereignty ku leheen oo lagu tuhumo inaysan sovereign state ahayn waxa kamid ah maxaa la yiraahdaa inaysan lahayn maintain of balki oo
maxaa la yihahdaa decision makingka iyo effective controlka inaysan ku leeyahin xuduudeedaba waa in dowladdu way weysaa controlkeeda maxaa la yihahdaa xuduudeed iyadoo u weyn karto rebel groups yacni maleeshiyaad hubaysan oo qabaa'il ha noqdo qowmiyado kale ha noqdo caraysan inay dowladdu maamulkeeda ka baxo oosan wasaaradaha iyo institutionka dowladda aysan gaari karin waa in oo maleeshiyaad qabsadaan waa inuu argaxiso kala wareegta hadda waxaa jirta dowlado badan oo disputes ka jiro oo waxaa ka mid ah nimankan la yidhaahdo kurdiyiinta waxa weeyaan dholal ay haystaan baa jir maanta turkina maamulin iiraanna aysan maamulin ciraaq aysan maamulin syriana aysan maamulin ay ka yani ka fog tahay maamulkeeda oo waxaa sababayo dowladna ma sheegan karto turkiga xuduuddaas la sheegayo waxbay ku leedahay laakiin waa lagula dagaalamaa marka taas weeyaan foreign forceska waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano kale murtasiqada oo jeebkooda u shaqaystayaasha waxaa la mid ah nimankan wagnerka oo hadda aad asbuucan caanka u ahaayo xataa kusoo rogaal celiyay dowladooda russia oo u shaqaynayeen oo waxa weeyaan dowladdu inaysan awood ku lahayn inay maamulto hadda Ukraine waxa laga yaabaa dhulalkeeda qayb bay haysataa laakiin dhulal waxaa jirto wagnerka ay ka haystaan mise wagnerka waxa la yiraahdo ay ka haystaan is awood u haysan marka hadda Soomaaliya lagu dabiqo Soomaaliya madaxweynaha maanta Soomaaliya mise dowladda federaalka Muqdisho hadda Somaliland furo kuma hayso waxa u maleynayaa awoodba uma laha maanta inay ka degto Somaliland ay Hargeysa ka degto ay barnaamijka ka hadasho maxaa la yiraahdaa Puntland hadday khilaaf isku dhaafaan Puntland waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa garow kama soo deegi karto dowladdaas sidoo kale koonfur galbeed geedo maanta ugu dambeysay waxa weeyaan xataa waxa la yiraahday waxa la soo magacaabo iman kar marka waxa weeyaan de waxa ku cad dowladdu inaysan awood buuxda ku lahayn dalkeeda which mean la dhihi karo maalkii dalka sovereignty-giisa toos uma dhamaystirno waxa kaloo xigo inay dowladdu lahaato inay basic needska dalka gaarsiin karto waa institutionka dalka uu leeyahay wasaaradaha caafimaadka NGO-yada dowladdu leedahay kulli inay gaari karto dalka gudihiisa oo waxa ka mid ah waxbarashada waxa ka mid ah infrastructure-ka waxa ka mid ah justice-ka waxa ka mid ah health care-ka maanta dowladda Soomaaliya waxay ku jirtaa alxamdulillah aad ugu faraxsannahay dhamaan youth-ka Soomaaliyeed in ay argagixisada dagaalan dhul xoreyn ku jirto haddaan ku noqono waxa way pointigaas waxa aragnaa dowladda Soomaaliya provide uma hayso yani ma gaarsiin karto institutionka maanta ka dhisan dalka dowlad dalka ma gaarsiin karto gaadaysan gaarsiin karin gobolada dhexe gaarsiin karin waxa weeyaan meelasha argagixisada haysto hadda la dhahay 200 kilometers bay Kenyan ugu soo gudbaan xataa anagu wax dhigi karnaa argagixiso maadaama dalku ku soo xadgudbeen kullama territory-ga dalka lagu soo xadgudbo waa terrorist weeyaan mise irhaab waxa la yiraahdo irhaabku kaliya ma inuu qofku isqarxiyo oo fikir wato waa inuu dalkaaga soo galaa dadkaaga laayaa dhulkaaga xoogaa marka dowladda Soomaaliya uma hayso ma gaarin scope-keeda mise ma gaarin institution-keeda inay gaarsiiso waxbarashada health care-ka cadaaladda pointiga oo fiirnay security-gi ma gaarin marka range-ga inta la eeg Somaliland hadda maanta maxaa la yiraahdaa wax Somali aid ka socoto kama degto oo caafimaad kamid ah disaster ka dhaco yani flood oo waxaas marka inta laga dhaho Soomaaliya xaggaas waxay uga liidataa in ay ka dhiman tahay sovereignty-geeda mise siyaadada dawladkeedii aad u hooseeyo waxa kamid ah inay yani faragelin dawladaha shisheeye kugu yeeshaan mise hay'ado shisheeye kugu yeeshaan waxa kamid ah maxaa la yiraahdaa hadda waxa for example waxa weeyaan hadda ku fahamsi barnaamijka ay fahamsi waxa weeyaan in dawladdu decision making keeda la yeesho in la yiraahdo assalaamu calaykum waxa weeyaan whatever noo sameysana waxa weeyaan waxa kugu badan yani decision making keeda la siiyo waxa aad uga hadlay barnaamijkan decision making ka ambassador Awad baan jeclahay wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Garowe oo aad uga hadlay barnaamijka waxa soo baxday 14 January baalkii podcast-ga ha noolaato wuxuu uga hadlay sida Soomaaliya fargelinta zaadka loogu leeyahay decision making-ka IMF-ta maxaa la yiraahdaa International Monetary Fund-ka bangiga oo caalamka international bangiga maxaa la yiraahdaa dawladaha dariska Kenya kamid ah African Union-ka kamid ah sida for example waqtiga ku dheeraada afwan waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa for example wasiirka markuu ka hadlayay dhahay Kenya Ethiopia nimaaday anagu maxaa la yiraahdaa ka hadlayno arinta Security Council-ka African Union lacag baa la soo bandhigay biri saamay waa decision making-kaaga adiga lahaan mani ku hadlo marka saa iyadoo tahay faragelinta siyaasadeed
soomaaliya faragelinteeda inaysan independent u waxaa ka mid ah decision making waa lala faragishtaa oo waxaa la dhahaa maraykanka yimaada saasaa u baahanaya saalasme hadda waxaa jira meel aad u la yaab leh waxaa ka mid ah xalane madaxdeena waa lagu baaraa oo waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yidhaahday markaan aan saa xalane uga degayo waxa weeye inaad jeebkay faraha la geliyo waxaan sharaf qabaa buu yidhi haddaa gaariga ka soo degladhiin adaa lagu baaraya marka dee decision makingka waxa weeye qolo gaar ah dalku haysto international community-ga haysto marka iyadoo saas marka pointigaas aan ka duulayo as axmed ahaan oo ka fiirinayo maadaama aan ka fiirinayna xaggan iyo negative-ka soomaaliya waxaa la dhihi karaa uma dhammaystirno barnaamijka maxaa la yidhaahdaa madax banaanadeeda weli uma dhammaystirno qayb way haysaa populationka waa jira territory divine waa jira laakiin waxyaalo badan oo hadda ka dhawaajiyay baa jira soomaaliya ka lidato waana real fact waa true story dadku waa arkeen aad baan u mahadsantihiin ka dhex baxay aan ku celinayaa ragga dhankayga bidix fadhiyo deedna idinkaan idigu soo celinayaa wixii ama commenti ama fikri qabtaan hal iyo laba qof waa siinaynaa insha allah marka qof walbaba ha diyaarsado pointigiisa axmedow si axmed ka dhawaajiyey tusaale ahaan go-aan qaadashada soomaaliya wuxuu sheegay inaysan maaragtay u madax bannaaneen idinkuna waxay sheegteen in madax bannaani soomaaliya ay jirto waa su-aal iyadana waxay u baahtay in laga jawaabay u baahan tahay sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey faragelinta shisheeye oo iyadana ka dhawaajiyey waxaa kaloo iyadana meesha taallo tusaale ahaan in wadankii uusan xitaa madaxweynaha ninka maanta soomaaliya madaxweyne ka uusan xitaa gobol kasta soomaaliya ka mid ah uusan awoodu isaga ku taga uusan lahayn iyadana waa su-aal kaloo meesha taallo waxaa kaloo meesha taalla arrimaha bulshada oo kale oo ka dhawaajiyay waxbarashadii oo kale marka intaasoo dhan marka la isku daro oo lagu daro in cunaqabateyn soomaaliya ay saaran tahay tusaale ahaan wadankaaga inaad difaacto waa inaa wixii aa u baahantao dhan waa inaa heli kartaa soo ma tusaale ahaan marka cunaqabateyntii oo kalena sare intaasoo qodob marka laga fiirsho soo lama dhihi karo gobonnimada waxay imaanaysaa in weli maandeeqaysan dhammaystirneen aan hashi maandeeq waxa waaye waa dhammaystiranta aan la dhihi karin wax ka dhiman yihiin soo dhawaada aad baa mahadsan tahay xidhiidhiye su-aalahaas waxaan rajayn doonaa si qurux badan inaan ugu jawaabo axmed wuxuu yidhi su-aashaas waa su-aashii labaad oo dan in lagu soo celiyo soomaaliya waxay leedahay faragelin shisheeye sida somalilan oo kale a tusaale usoo qaata somalilan horta waa waddan dhaha waxaa weeye ictiraaf aan doonaynaa oo dependent baan nahay oo waxaa weeye waan xorowne waxaan ka xorownay ingiriiska waxaan nahay waddan iskiis u madax bannaan wax madax bannaanina lood ma jiraan waxaa jiray 2020 bishii 6/15 xukuumaddii maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yidhi wada hadal agreementi baan wada yeelanaynaa somalilan iyo soomaaliya somalilan waa magac ay la bixeen iyagu waa dhulkii hooyada hadday ictiraaf ku doonayaan waa la aqoonsan lahaa soomaaliya baa ku jirdhabe saas awgeed maxamed cabdullaahi farmaajo miiska wada hadalka wuxuu u soo saaray in ay wada hadlaan kuna wada hadlaan waxay goongoost u noqdeen su-aalihii la weydiiyay waxaa ka mid ahaa waay maxaa koosgareeyey inaad noqotaan dad dhahaa waxa weeye ictiraaf aan doonaynaa waxay ku jawaabaan aan ku andacoodaan bay garan waayeen taasna waxaan isdhihi karaa aniga dad raba inay ku adeegsanaan dana gaara ku wata oo dana gaara ku wata burburka soomaaliya ay burburinayaan saan ogsoonahay soomaaliya waa dalalka keliya waxa weeye hadday midnimo noqoto wadaninimo noqoto dhaqaalo noqoto activity walba noqoto adayg noqoto waxa weeye dalag noqoto waxaana dadka ugu horeeyaana fast one tusaale Uganda baa tusaale kugu filan saan ogsoonahay mawduuca ayana ka baxan maraba laakiin tusaale u soo qaadanaya waxay isku qabsadeen waxa weeye Uganda iyo Mareykan waxba dhex maray xaajada dhex maray maxay ahayd in waxa weeye calankii khaniisiinta maxaa la LGBT inay macnaha waddanka la keeno Museveni baa waddanka madaxweyne ka president ka waa diiday qofka aad ku aragtaan sujuudda ka calaamada yiri
laba wiil ka horna safaaradda maraykanka ku taagnaa waay maxaa koosgareeyey waddanka waxaa la rabaa in la burburiyo waddanka hadduu horumar leeyahay challenge iyo carqalad wax walba leeyahay marka somalilan carqaladda haysataa waxay tahay in lagu boosgareeyo oo waxa weeye lagu ataagareeyo in soomaaliya ku burburiso soomaaliyana taasna ku burburi mayso soomaaliya oo midnimo leh soomaaliya oo hal madaxweyne leh baan rajeyn doonaa insha allah aad baa mahadsantaa cafwan midda kale wuxuu yidhi decision makerka buu sheegay saan ogsoonnahay xukuumaddii hore maanta dhan xukuumadda ku celcelinaya laakiin xukuumaddii hore waxbay qabatay been isku sheegi mayo xukuumaddii hore maxaa ablaay farmaajo waxa weeyaan wuxuu sameeyey wasiirkii waxaan ka wadaa ninkii u fadhiyey safaaradda qunsulka qaramada midoobey way isku dhaceen maxay isku dhaceen inuusan baahi u qabin buu muujiyey iyo wadaninimo baahi gaara dan gaara oo ka gashay maxaa ablaay farmaajo ma jiro soomaaliya inaysan u baahnayn wadamo shisheeye buu u casilo una bahdilay marka saas weeye aad baa mahadsantahay aad u mahadsan yahay Khalid bal intii aanan dooda hore u sii wadin waxaan rabaa qofkii su'aal qaba ama raba inuu comment ku darso waxaan maleynayaa maalmaha xorriyadda marka la yiraahdo dadku aad bay maaragtay u danayaan marka way igu soo celi doonaa laakiin hal iyo laba qof aan rabaa inaan siiyo dhanka gabdhahana halaan ka sii doonaa wiilashana halaan ka sii doonaa soo dhow ninkaan abladinaan idigu soo celinayn soo kale de mawduucan oo kale waxay maaragtay talabiirsi noogu doortaan aan adigu mahad celinayaa in maaragtay doodaha caynkan oo kale ay ka dhashaan dhalinyaraduna ay wax badan wadaagaan wax aad u qurux badan waa dhabti laakiin hal mid baan iga codsanayaayo isteediyaha noo celinaya maaragtay gudaheena noo celinaya mid guud aan ka hadalnaa aad ma santii mawduucan ayaan laga bixin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لباد مر استحاد وحويان برنامج كلا جهل الله وحويان هرتا وماملك يعني دولته وكل ما استرنتها هنا مدح بنانتها هرتا مركز ولا قف عناية وحويان orientation لبحية هذا إن state low good value جاد ولا قف عناية وحويان دودين لو صدر وحلا جهل الله وجرنال سومالي ما الله جراي مجرته وكونفور إلا وقوي إلا بري إلا أنت سوالة سعونا يا وحويان ميلنا ما جونا ميت كلابات أو ولا شيء أدو قد واجسي أدو قم هاد علنا يا مركب واحد أقوى إنه أرضي ما أنت لأن يرت ماشي فريدا قنيانا ذا فريسو ودين يو أو كوريجنا محاك وزجري وحيالهن ريزونيس كودن بانجع لها يو أدو قد واجي ما دام وسفيني تيجيني وحكد من يهليري تي وحيالا بدن واحد شيرو تي رسالة مركز سميسيد أقوم وقنكره وكوزجرين كرو ما أنت برنامج كان لدها يو والبا مقان وحوي شعبكم مدام يستر decision making كواليتا education is كاد يعني institution كذا كاد بوليتا وحويان ما هي سنة constitution stable وعاد بوفي عنتا هنا ضد جار لقى فربالك يعني constitution كا وحوي ما هي سنة دستور دميسترن أنا جو لبجر بريفيو كسمة دستور كسوماليا إن صدح إلا أفر قضب ما هي إلا عشان قضب أنت كلو كوبي بيست وحكسوقاتها كوبي international يا United Nations كا UN تا بعد وجه هذا سكورت كونسل كهذا كفي رسيد سفا يعني دستور الصومالي هذا في رسو قيبت السكورتي وحيالا لقاها الله يو حيرك قد أنت يعني أمنية صومالي واحد أركيسا United Nations Security Council عاد كوبي بيست كقولنا يا واسكسو إكانا يعني محل يرى هذا نظام كجوفرمنتال كاستعمال إنه وحال يرى هذا فدرال شغل constitution كانوا كل حسنا هذا ويه هذا جو مع موضوع constitution كماها federal كمركز قاعد كماها federalism كو يعني برازيل سيتها هاي إنديا سيتها هاي United States سيتها هاي Belgium سيتها هاي أنا نوع كان معها مركز في federalism كا وهب فهم وماديد إسكو فهمي سيدا وحقي بسنا هاي for example هذه لقاها لو ما أنت لبدو لو بتسأل هذه كوسو قاعدة وإنديا يا برازيل بس إنديا يا بلجيم إنديا واحد يكونوا أنت مليان قوميات قومياتها صورنا هذا في رسو وأكل فكر دوغيين وأكل دين دوغيين وأكل ريجن دوغيين وأكل كلر دوغيين وأنا بمركز الصومالي هندي ده أرجع قيبنا واحدنا وهندي ده فقر صي قيبنا واحدنا وهندي ده قروح البضانة تاجرين تا يعني وأمت سأكل قيب سندي مركز إنه فدراليزم كو قيب سدان كونستيوشن كذا كو حسينيا برازيل بس بلجيم وحاجة دايفرسيتي أدوين أو كل دوانانشو وحكون مقضى إن أمت إسبانيش كو هذا الشيء أمت لوكال لانجويج أمازون لانجويج كو هلا باجرت برازيل بلجيم هذه اللي يماذو وكيس كله وحوي بلجيم دقالك سلبادة دون مركو دماغي دولة باباي دولة وحكوها لا ينداج دولة وحكوها لا ينفرنسيس قيبة جماني كوها لا
qayb baa luqadda aan la aqoon ku hadla local language ah marka waa kala Soomaaliya diversity-geeda waxa weeyaan yani laguma xusin dastuurka waxaa arkaysaa dowladda Puntland oo maamul goboleedka Puntland oo ku faramudayso dowladda federaalka oo dhayso yani waxyaalo badan baa iga maqan oo waxa weeyaan lagalama tashan yani wuxuu sheegay diversity يعني وحبان اللي قاله هشيم because federal هو agreement هو social contract كده أمدا Somaliland ما أنت وحي كودي ده هذه لفير لبارو social contract يبقى وحكة خلدن مركز social contract يبقى وحى حاجة جنكار هو constitution كا ولا شيء هذا الكذا واجسي كدوميها سي وجاها الكاميرامان كا يركز في عوالي ولا الك خالد وجاها وحويان ما هيصنو stable constitution مدحويني هذا عبد الله يوسف حل دجالها بسوق لدلك وحوين دلكو بوق وين هذا كفرنا شيخ شريف باسوق لي غير الدستور كله في السنة وحوي الدستور كله في السنة وحوالا جماعة قبان حلق الشيخ شريف وادا ماضي 2012 I think مالشاز حشيخ محمود بالا دورتي ومركي بالصومال ريكوجنيشن كأي شيء إن دولة توس كدلتي دياد بارتي ما قرنا يو حلقي حسن الشيخ محمود وقبتي عن جعلاي بواحد كبحنا دولتكم الجارة ويعني دولة عادة سوق لنا وملينا يا ريكوجنيشن اللي حتى أمباسترودين لا قبلي فرماجة سوحي جاي الدستور كان كفدي سنة يعني وحيالا بدن بالغها لا يبيري الدستور كا وزير الدستور بمقعابي اد بو سغدي بيتو سمي سمال ناشونال تي في كجرا يونيفرسال تي في داوتان وحبدان با كفايديسان 2020 با ملينا ugu dambeeyay wuxuu ka sameeyay waxba laga bedelin xaashiq maxamuud baa soo noqday wila sidoo marka waxaan haysta waa social contract aad baan mahadsantiin saa waqtigeena nagu soo hodhaan oo danihiina iyo hawlihiina aan nagu soo baajiseen saa doodaad uga soo qayb qaadateen aad baan idinka mahadcelinayaa mahadcelin kadib waxaan rabaa su-aashay cabdishakuur saleebaan inaan u soo gaabiyo uguna jawaabo wuxuu yidhi somalilan waa dad madax bannaan buu yidhi waa dal madax bannaan wuxuu sheegay ictiraaf inay leeyihiin wuxuu sheegay somalilan dal madax bannaan somalilan wuxuu sheegay in dal madax bannaan yahay oo ka goosan waxa weeye Soomaaliya sax wuxuu kaloo sheegay waxaad ka dhawaajisay xukuumaddii hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo baad waxaad taageera u tahay wata mid baa jira Somaliland waa dal ka mid ah Soomaaliya waxaa jiray waqti xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre laga soo bilaabo dalku wuxuu lahaa ilo dhaqaale caafimaad waxa weeye quality education waxbaan dhoofin jirnay dalku waa isku furnaa kadib burbur baa dhacay burburkaas bay Somaliland go'aan ku gaadhay inay goosato 9 madaxweyne baa soo madhay haddana waxaa ku soo noqday madaxweynihii 10aad oo mar labaad ku soo noqday ma jirin madaxweyne weydiiyey asbaabta Somaliland ay u goosatay Soomaaliya uga goosatay oo ila baxday Somaliland una doonayso ictiraaf kadib 9 madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ugu horeeyay taageerana igama ahayn waxa weeye waxa qabadkiisii waxa loo idmanay baa ahayd wuxuu isweydiiyey uu hooyan waayey una seexan waayey sababaha Somaliland ay u goosatay dhowr jeer buu waxa weeye shirar galay oo ku fashilmay markii dambana miiska hadalka markii la geeyay shirkii koowaad saad xog u haysay Djibouti ka dhac waa 20 bishii June 15keedii markii la weydiiyay asbaabtana waxba kuma andacoon waa ka soo fikreynaa iyo adigu qunjraaf bay sheegeen saas awgeed dib dambe waxa weeye hawshooda laguma gelin marka Somaliland waxa is dhihi karaa waa dad waxa weeye loo adeegsanayo Soomaaliya mana jiro wax ka madax bannaan Soomaaliya waa mid isteediyadu waxay hoos tagaan waa Soomaaliya waxa weeye Soomaaliya mid madaxweyne leedahay wax daldal ah ma jiro mid kale waxa weeye waxaad sheegtay maxaa Cabdullaahi Farmaajo aan taageero wahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo taageero meeyay wax qabadkiisa baa waxa weeye muuqdo baa taabta Soomaalidana abaal ma yaqaana runtii qofkii wax qabtay bay dadka ugu necab yihiin wuxuu qabtay baan ugu taageera
maxaa Abdullaahi Farmaajona ma taageero xukuumad siyaasadna ma taageero waxaygana waxa weeye waa u simanaa aad baan u mahadsantahay axmed baan rabaa inaan su-aal hor dhigo maadaama waddankeennii maanta dhowr sano ka hor sida uu ahay maanta uu ka duwan yahay moodana in maaragtay soo kabasho badan ay jirto sidoo kalena dunidu inaan Soomaaliya nahayna loo aqoonsan yahay soo lama dhihi karo dadku in la dabaaldego oo waddankeenu xor waa la yiraahdo waa la dhihi karaa dadkana ayaan la niyad jabinin soo taa kuma habboona in la yiraahdo bismillahi raxmaani raxiim horta waxaa weeyaan marka waad inaa isla faana loo baahan yahay maxaa ciwaankan meesha ugu dhejinaa hadduu waddankeena yahay waddan madax bannaan maxaa shaki ka geliyay oo ciwaankeena marka waad yacni waddanka markuu madax bannaan yahay hadda Ugandaan joognaa example-aan sanad bay leedahay Uganda waxaa malaynayaa Soomaaliya 3 sano ka dambeysay meelaha anaga 63 sano marayna ayaga 60 bay marayaan yani dadka Ugandaiska dhalinyarada anaga nala eeg maanta boorkaan kala deegsaan ma dhahayaan Uganda ma madax bannaan tahay mise ma madax bannaan anaga maxaa boorku noo dejiyaa taala marka waad meesha sababtoo ah boorkaan lama dejiyeen haddii san jirin problemyo jiro oo macnaha ku gadaaman waddankeena iyo madax bannaanidiisa inaysan jirin يعني ودك هو جعلنا هاي ما هن أنا جينا ودك كسر جودنا مركا كهذلنا يعني بروبلم كودن كتيرو إنا شيء وواح عادية أنا شيء كيسنا إنه سومالي وانا في سوماليا كوال لنا واحد جرو أو ودك إنه كم غني يحب بينا شيء واح عادي ومش كجرو مركا وحاسلي هاي باش توبيجي وحاويان دتك سؤالك سؤال علينا يعني جودة دواعي تري عير مني صح ويعير مني مدحونا لنا علينا رجال الوزراء برلمان جلو إكزيكتيف وحاول بالنا لكن واحد رجع بيصير صحراء أو مغطو يعني وضدنا أي كسب سنيدو أهيد يعني إنه جرو بروبلم وحاجة سفرة تيجي ودن كأنه كلا مدحونا إنه ملوا الباتي كراسة أو سفر كراعة محمود وياه مدحونا تومنا الصومالي أنت سولا باتي لكن مدحونا حس محمود وكله مركومات تيجي يونايتد نيشن كسلك أصلاً مدحونا الروتو مركز إسرائيل إسكو قابلات مهلان حتى مدحونا الصومالي حور راديا إنه مدحونا بيدن لكل ملعب وكبح ضد يرير أو يا وحي كبح عن العق وادي السيستم بعملنا يا دتك مركي لفلانقينا يوكل السياسيين الصومالي مركي مريك تجان عدا أحمد سعود بقول دمي بودكاست كيسود دمي يوكله وحكال لا رجل جرا الصومالي مريك تجي يعني ريفيو الصومالي دخلها ودن كأدو اللي تي وحروين كرلو قاضو عاونات دائما مفتي والبنك يقربين ولا كل وقت بيكو قاضتي لموس كل منا سفيركي أو شيء ودمي وأيو حاليري رجل جرا الصومالي وقت أكل كل نوين ما إن لكن dadka baasibidka bacnaha u shaqeeyay wal banki IMF ka kala soo dirayna ha arkeeno wixii fariinana ayaga nagu soo dhiibay minis waxa ka dhigan tahay wax weyn oo awooda oo maqaam title yani caalamka kula dhil gareesoon ma jirto marka yani wax weyn qeyr jabaan tada iska deena isla faana muhiimadu waxay tahay wadankeenu waa problemkiis aad buu fara badan yahay madax banaadiisana gaab badan baa ku jiro waa wada jecel in wadanka noqdo wadamada caalamka kale lana dhageysto madaxdeena madaxweynaha madax ixtiraam leh oo yani dadka ixtiraamaan oo la soo dhaweeyo maqaamka madaxda caalamka kale lagu soo dhaweeyo waana maasantiin aad baa mahadsantihiin waxa weeyaan barnaamij aad u fiican weeyaan marka koowaad waxa weeye waa tahdaaya xataa ka dhiidiyo yiraahdo war bal orientation yar hala sameeyo oo bal alisa taa group lagu wada jiray oo la ogaa in barnaamijkan dhacayo waxaan wala jeedaa hala kala garto marka koowaad maxaa la yiraahdaa independent xorriyad maxaa la yiraahdaa xorriyad waxa weeye goortii dawladdii Soomaaliya ka soo qaad for example Soomaaliya goortii xorriyadda qaadatay weeyaan waana wax oo de shacab iyo ideologically wax walba in lagu dabaaldego waa sax kaas waxa weeyaan anigu aas ahaan oo ka soo horjeedno barnaamijka oo sovereignty-ga ka hadlaynay oo maadaama negative side ka nahay kama aanan wadin yani Soomaaliya ma dabaaldegi karto independence Soomaaliya waa qaadatay Talyaani iyo waxay ka qaadatay iyo Britain UK so ma aha taas waxaan ka hadlaynaa anagu waxay tahay sovereignty dawladda Soomaaliya ma iswadi kartaa iyadoo ma iswadaa mise waa la wadaa driving car gaariga markaa wadaysid qofna steering waaya qofna view ku daawada Soomaali ma view ga daawataa mise waxa weeye gaariga steering-keeda gacanta ku haysto waxyaalaha sa'ula waxa kamid ah oo pointiga ogaal waxa weeyaan Soomaali sovereignty-geeda waxa weeyaan waxa ugu dhaw ninka hadda wuxuu ka hadlayay aad ba ugu adagtahay leaderskeena in ay la hadlaan ay la fadhiistaan maxaa la yiraahdaa madaxda caalamka hadda waa tuu broadcasting-ga hanolaato ka hadlayay ambassador Aawad wuxuu yiraahday madaxweyne ra'iisul wasaarahayga in uu la fadhiisto IMF-ta iyo World Bank-ga waaga gabar Francis baa haysatay bir IMF-ta oo ka director inuu waa director iyo prime minister de waranji ugu weyn qof dawlad qaban karo sometimes prime ministerada adduunka ee caanka ah madaxweyne lama yaqaan laakiin Ethiopia maanta
etoobiya abi axmed baa la yaqaan madaxweynaha etoobiya haddii qof la weydiiyo yaa ka ah xataa malabi dhadig waa kee lama yaqaan prime minister keeni baa wuxuu la kulmi waayey directorka IMF-ta international monetary fund ka waran barnaamijka culayska teeda kale waxa weeyaan siyaadadeena mise sovereignty-gan waxa ka maqan kaaga muuqato Soomaaliya maanta integration kuma jirto maanta markay Sweden tagayso laba mar bay ku tagtaa ay caalamka ugu la fadhiistaa Mareykanka kale marna waxay ugu la fadhiistaa European Union baa ku jira marna Norwich Group bay ku jirtaa Union midoob bay ku jirtaa midowgaas bay wax ku qaadataa maanta markuu madaxweynaha Uganda Museveni uu la kulmayo madaxweynaha Mareykanka laba waji buu la kulmaa midka koowaad wuxuu la kulmayaa East African Community baa ka socda because waxa jirta low la yiraahdo the attack for one country is attack for other country oo waxa u dhigmataa Security Council ka u degan waxa weeyaan haddii la ataagareeyo hal dowladoo dhan way which mean waxaan kala jeedaa dagaal ma aha waxaan ka wadaa haddii la soo xumeeyo madaxweynaha Uganda waxa la soo xumeeyay Kenya Paul Kagame waxa la soo xumeeyay Tanzania waxa la soo Burundi East African Community dhan baa la soo ceebay Museveni wuxuu soo laabanaya wajiga wax kuma soo laabanaya isagoo dhaay abooyaashii waa la xumeeyay waxa jirta waa kubadda la ciyaari jiray haddii adoo kubadda iska lamisa kubadda ciyaarayo haddii lagu maago anugu waxa ciyaar xeebeed baa reer Boosod baa markii la soo maago soo orjirnay dagaalka waxa dhijirnay boo waa la soo dilay kaaliga celi shan wiil walaalay soo raaci jiray marka waxaan ka wadaa isagu careysan buu soo laabanaya oo leeyahay waa markaas weer guud waxa ka soo baxay East African Community ka dhayo madaxweynihii Uganda la xumeeyay which means appeals to East African Community Soomaaliya u tagta Arabic Union range xoog weyn ma la wala yaqaana khaliij bay la bixin hadda qaybta khaliijka weyn Soomaaliya kuma jirto Union marka waxaan ka hadlaynaa waxay tahay Soomaaliya sovereignty-geeda intuu leeyahay ma dhameystiran yahay mise waa weak marka anagu waxa leenahay waa weak maxaa yeelay waxa noocaad madaxdeena si loogu la tacaamulo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha South Africa lama fadhiisan karo it will take a time like recommendation letter ku dalbado oo dalbanayo waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa muddo qaadanaysa hal mar waxaan ku dari lahaa hal barnaamij oo aad cajiib oo waxa way dhowr jeer laga dhawaajiyay oo ardaydeena laga yaabo in madaxdu ku wareegayo waagii hadda madaxweynaha Soomaaliya farmaajo u baahinayay ninka United Nations qaramada midooba qaabilsan iyo qolo diblomaasiyiin ah oo agenti oo wada ah wuxuu isticmaalay personal non grata uu isticmaali karaa maanta waxa isticmaali karo tusaale waxaan ku soo qaadi karnaa galmudug qorqoor maanta wuxuu isticmaali karaa personal non grata uu leeyahay ninkan ay WFP soo magacaawday oo galmudug ka shaqeynayo ma rabi waa awood gaar ah oo qof walba sameyn kara maanta Puntland madaxweynaha Puntland wuxuu diidi karaa Said Abdullahi Dini wuxuu dhihi karaa assalaamu calaykum ninka laga soo diray World Bankiga oo director ka noqonaya Puntland oo ka matalaya Puntland ima matalo waa iga baxaya waxaa la mid ah Somaliland maanta qunsuliyad baa ku taal qunsulka waxa ku taal aanu maleynaya Hargeysa qunsuliyad Turki baa ku taala qunsuliyadu waa aad waa ka xumaay wax waqtiga ku qaato qof international relations baa marka waxa weeye hadaa barnaamijka la galo aad baa ugu ballaaranaya marka waxaan ka wadaa madaxweyne walba oo gobolkiisa maamusha mise nin walba maayara personal grant uu isticmaali kara uu dirsanaya letter federal government ku soo dirsan kara ima matala ninkaas uu baxaya marka personal grant markii la isticmaalay ma ahayn awood xoogan ay Soomaaliya international politicskeeda ku difaacatay ma ahayn waxa weeyaan anigu waxa leeyahay oo Soomaaliya decision making keeda waxyaalaheedu aad buu weak u yahay markii loo fiiriyo lagu compare gareeyo dawladaha dariska for example Djibouti Ethiopia iyo Kenya aad baan u mahadsantihiin isla su'aal la mid ah baan rabaa inaan hor dhigo Khalid iyo soo kale Cabdisalaan ragani waxay taagan yihiin macnaha su'aashoodu ay daaran tahay haddii uu darmaan faras midabkiisu door yahay tabta iyo dagaalkana ka tilmaaman dagaalada haddii uu dambeedyada cudur uga soo dagay inuu dagaal yahan dirir uu ku aadaamo wax dubaaqa galaya taasi taagan yihiin su'aashoodu halkaas ay daaran tahay marka waliba waxay marka hadiiba kol madaxweynaheeni xafiiskiisa oo maaragtay furaya nin maaragtay shisheeye sidoo kale security-geena ay sugayaan shisheeye ay sugayaan waxbarashadeeni aad daciif u tahay dhallinyaradeenii waxa waa maaragtay shaqo la'aanta iyo maaragtay tahriibtii badatay dee weli wax badan ay naga dhiman soo weli su-aashaas halkaasi daaran yihiin maxaa kaga jawaabaysaan soo dhawaada aad baa mahadsan tahay xiriiriye walaalahay weli go-aankii bay taagan yihiin waxay ku hayaan
dalku waxa weeyaan caafimaad, quality education, waxa weeye maamul wanaag, intaba waxa weeye kama jiro. soo saas maaha. horta quality education aad lagama hayo xataa oo MCA ugu yar isbitaal aan sheegno MCA meel abraha lagu fooliyo ilmaha aptex ku dhacay lagu talaalo dadka xanuunsan u dawo ma ka jirto. axmed aad baa mahadsan tahay. waxa weeyaan saad u sheegaysid waxa weeye oo dooda aad waxaan u malaynayaa dhaliilo badan iyo attack inuu jiro. waxaan rabaa inaan si fiican kaaga biyaamiyo. horta meel walba waxay leedahay MCH bay leedahay, isbitaalna waa leedahay. waxaa tiri quality education kama jiro Soomaaliya, oo macnaha waa ka jira laakiin waa ka liidataa, gaab baa jira. saan ogsoonahay Soomaaliya quality educationka tusaalaan ku siinaya high secondary oo kale waxaa laga yaabaa in ka badan 20,000 oo arday ama 30,000 oo arday baa u xaadirta. waxaa kormeero looga dhigaa 300 ama 400 in ka badan. su-aasheeda haddaan soo koobo, dhaqaale iyo meeshii degi lahaayeen iyo waxa weeye deegaanada ay matalayaan oo supervisorka ay u yihiin oo imtixaanka ku ilaalinayaan, wax walba waxay leedahay system iyo nidaam oo waxay hoos tagtaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. ma jiro Africa first one quality education kaga horeeya, xaggana 8 bay leedahay, waxay leedahay 4 bay leedahay. ma jiro wasaarad waqtigaasna qabata intaasoo supervisorna gobollada u didha, ma jiro. waa tusaale, waa Uganda kugu filan, gobollay leedahay, degmooyin bay leedahay. saas ay tahay quality educationka Soomaaliya waa wax jaan go'an, haygeedana aad u sareeyo. waa jira waxyaalo iska doldoloola ah, laakiin insha Allah rajayn doona inay iska dhamaadaan. waxaa tiri dagaal baa lala galay, waxa weeye Arsenal dagaalka lala galay, ciidamadii ku dhintay ama waxa weeye ku dhaawacmay MCH loo waayay. evidence hadda maadana siin. deegaan walba wuxuu leeyahay MCH buu leeyahay, dhakhaatiir gaar uu leeyahay, xitaa waxa loo tababaray ciidamo quality leh oo mushaarkooda qaadanaya, laakiin la baray habka ay isku difaacaan, laakiin dhakhaatiir ah baa loo tababaraa. everything nin walba askari oo xabad ku dhacdana daweynaya. marka wax evidence oo hadda si fiican noogu biyaamisay deegaanada ma jiro. deegaankaas MCH laga waayay, deegaankaas MCH laga waayay ma adhiin. aad baan u mahadsantahay. bointiga wuxuu yahay markii la dhahayo waxbarashada lagama wado total nidaam waxbarasho kama jiro. because wasaarad baa wacyi man hay'adaha leedahay waxbarasho suneeb baa ku taala Soomaaliya, hay'ad la yiraahdo oo aad waxa weeyaan lagama hadlayo 22,000 arday baa gashay Soomaaliya. haddii la fiiriyo dhalinyarteeda iyo waayeelkeeda yaa badan, dhalinyarta aad u badan. maanta ardayda class 8 ka ay galaaska form 4 ka class 12 waxa weeyaan tiradooda haddii maanta la fiiriyo xaqiiqatan loo fiiriyo 22,000 baa laga leeyahay Soomaaliya oo dhanka gashay. يعني دولة فدرالك سوماليا قبل هذا كانوا ماملكوا حبرشة سمستما لكن برسومك تلي واحد قشوا أفرتم كنا أرضي هدي لا فيريو أرضي ذا سوحي جاري يعني محلي هذا توصل لو بارو مليون إلا بمليون أرضي مركانو كم وضع وحبرشون إذا بدل كجرو أي واحد كوضع ما أنت أرضي قد قبل كل حرية كيمي محوب أرضي سيدي تمجروي و 18 بلس بجرا وهير جامعة وقلي كري هير oo waxa weeyaan macaahida tababarada training gala basic needs ka waxbarashada uga baahnaa ma haysto. maxaa yeelay niman rebel group ha ahaadaan dawladda shisheeye ka socdaan, argaxisaha noqdaan, whatever ay noqdaan, wiilasha waxbarasho maysan helin. markii aan laga hadlin maxaa la yiraahdaa gobolada gaarka waxbarashada galay arday badan bay waxbarashada gaarin. MCH ka haddii la yiraahdo for example waxbarashadan kugu celinaya maanta gobolada dalka dagaal baa ka socda goboladiisa. maanta la sacaanood imtixaan waxbarasho laguma fadhiisan oo imtixaankii form 4 lagama fadhiisan si la sheegay. waxa weeyaan qaybna Soomaaliland bay ku arartay gudaha Soomaaliland gashay oo waxbarashada ay ku galay imtixaanka, qaybna Puntland baa ka qaaday, gar waa looga qaaday.
war sool oo dhan imtixaan loogama fadhiisan iyo qayb ka mid ah sanaa ku dhawaad loogama fadhiisan gobollada kaloo maanta la isku dagaaya hiiraan areadeeda arday baana waxbarasho imtixaan u fadhiisan marka dowlad aanan provide garayn karin education needka ardayga mustaqbalkiisa iyo kaga ciyaarayso dowlad marka waxaa la dhihi karaa u dhammaystiran waxbarashada systemka haddii loo fiiriyo dowladaha dariska aad baa uga hooseena health carekan kuu sheegayaa intee dhaawacba maanta laascaano iyo nawaaxigeeda ku dhaawacma for example dagaalka aad ugu macquulsan maanta ka socda Soomaaliya for example inta dhaawac la keenay waxaa loo qaaday kaalkacyo Garowe iyo Somaliland gudaheeda hiiraan areadeeda kaba soo qaad baa baraawe dhaawaceedii dadkii areada bannaan ku dhaawacmay Muqdisho iyo Baydhabo areas la soo geliyay which mean kama wadno waxbarasho dalka ma laha waxbarasho yani caafimaad ma laha health care waa leedahay laakiin institutionka health care ka aad buu liitaa dalka xaggaasaan ka hadlaynaa anagu ma aha dalku waxbarasho toos ma laha anaguba form 4 baa kaga soo baxnay waxbarasho la'aan maana soo arag kulligeena waxbarasho waa soo aragnay ardayda dhigeena gobollada dagaalka ka jiro iyo argixisada haysata iyo gruubyada ma gaarto waxbarashadii waana 18 jir dibiri mustaqbalkiisu waxay noqonaysaa inuu argaxiso ku biiro inuu askari noqdo inuu dropout noqdo tuug noqdo waraga ku biiro aad baa mahadsantahay axmedow tusaale waxaad sheegtay in mchyo ardaygii soomaaliya kaga baxay ama high secondary ama aid ha ahaadee elementary inuu dismoral yahay oo waddankii waxa weeye dagaal ka jiro caafimaad waa ka jiraa laakiin hooseyso oo qualitygeeda waa hooseysaa baad sheegta tusaale waxaa kugu filan anoona muddo ay ga baxayn Rwanda waa garanaysaa Rwanda waa dalalka ugu fast one Africa ugu horeeya weeye milyan iska daayay bilyan baa kaga dhimatay qarniga la soo dhaafay wax walba waxay leeyihiin kab bay leeyihiin kabka ay leeyihiin caafimaad hadday noqoto iyo waxbarasho hadday noqotoba dalalkii ugu liitayba waxaa jiray ardadii reer Rwanda inay ku kala yaaceen waxa weeye gobollada kale waxa weeye caasimadaha kale Tanzania iyo waxa weeye Angola iyo meelahaas marka tusaale waxa kugu filan ardaygii 8ka ka baxay ama 4ka ka baxay waxbarashadiisa waxbarasho quality waa hooseysaa waxa tiri dismoral buu ka hooseeyaa mayo dee kolley annagu waa ka soo baxnay secondary intaasna waa ku soo waxa weeye leekaanay waa jira hadday meel walba dagaal waa ka dhacaa taasna de waxa weeye in midnimada Soomaaliya waxa weeye haddii alla ku idmaayo ay xar noqoto lambar 1 noqoto weeye caafimaadka soo hadhay caafimaad waa jira MCH-na waa jira laakiin shaqaalihii iyo service-kii dadkii shaqaynayay baa dhaqaalahooda waxa weeye aan lagu koofin gareyn marka taasna waxaan rajayn doonaa inay iska dhamaato aad baan u mahadsantahay waxaan umaleynaa guntii gabagabadii barnaamijkan aan kusii shaqeynaa inaan aaraada dadweynaha maaragtay dadka ka soo qayb galanay inaan iyagana dhegeysanay aadaan maaragtay ugu baahannahay waxaad moodaa inay maaragtay doodii iska soo dhawaatayo dhammaan ay kusoo wada biyashobatay in gobonnimo ay jirta laakiin dhaliilo badan ay jiraan kolley dhan walba saasuu ka dhawaajiyey marka idinkaan idigu soo celinayaa wiilashana 3 baan siinayaa gabdhahana 1 baan siinayaa okay labaan idinka maya labaan siinayaa wiilashana 3 maadaama ay tira ahaan ay badan yihiin soo dhow wixii ay ku salaysan tahay waddanka madax bannaanidiisa waddankeena totaliba madax bannaani ma haysto sababtaan ii sheegayaa sababtu waxay tahay hadda maanta waddamadan khaliijka waxay ku tartamayaan inay Soomaaliya ciidamo ka qortaan iskood ayaga u shaqeeya wasaaraddii difaaca waxba kama hadli kardho that means waddanku xorriyad ma leh oo wax ku diido waxna ku yeelo mana aanaa gaarin saan qiyaasayo xeerkan ku diidi lahayn ama ku yeeli lahayn sidoo kale hadda waddamadan Qatar iyo Imaaraat waxay ku loolamaan hadba kii siyaasadda Soomaaliya si aysan lahaa 4 sano soo socota saan wada ognahay dawladdii hore dawladdan ka horeysay Qatar baa korka haysatay dawladdaana Imaaraat baa korka haysta hadda madaxweyne last month wuxuu aaday labada waddan buu tagay mid
waddanka markii horse wuxuu tegay imaaraad markii dambena wuxuu tegay mataqaanaa waddankan la yidhaahdo qatar oo maalin lagu tegay waxaan intaas macnaha ilaa hadda waxaa jira khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo imaaraad oo sababtu tahay seebaa u tegi kadhaa qatar adoo madaxweynaha soomaaliya ah marka sidoo kale waxaa ognahay ciidamo waxaa ka jira soomaaliya la yidhaahdo for example maraykanku tababaro la yidhahdo danab totally ma hoos tagaan wasaaradda difaaca soomaaliya ma hoos tagaan marka maadaama meeshii horta meeshkooda wax laga fiiriyo hadda saan ku meeraysayna waa caafimaad iyo mataqaanaa waxbarasho annagoo mataqaanaa labadaas horta waxaa la dhihi karaa waa wax saa loo sii fiiriyo maahan laakiin meesha koobaad ee waddanka laga fiirin karo waa meeshaas marka waddankii haddii danab saaka ay maraykanka amal qaadato mataqaanaa haddeertaana loo rajaynayo in ciidamo ay samaystaan imaaraad oo ayaga u shaqeeya dee ma dhihi karno xorriyad baa haysanaa nothing ma jiri karno xorriyad marka su-aasha waxaan weydiinayaa saaxiibada loo yadaano mataqaanaa dhinaca positiveka u hadlaysa anugu negativeka dhinaceeda ahay marka inay su-aasha iga jawaabaan maxay tahay waddanku uu u samaysan ku diidi laayahay in ciidamo lagu dhex samaysto waa mahadsantihiin هذا الكأد ما في يعني حواس مال نوضع سوق قادم معهني إن هرت موضوع وحوم ملايين يا إنه هاي إن مدح بناني ده الصومالية هرت لو ما شاكين كرو ضله دول ضد علن واحد لو يقانوي أو عالم قونسية هاي يضع عالم كنا قونسية أنا جينا أسكشكينه هذا أنا إذا هرت عندنا كشكي هرت مغفبانا وقلدنا Soomaaliya inay tahay dal madax bannaan aniga ka ra'yi ahaantayda waa dadku way kala ra'yi duwan yihiin kama shakisani inay dal tahay laakiin waxaan qarsanayaa inay jiraan saluugyo hadday noqoto dhan horumar midnimo wadaniyad amni dhaqaale dhan kasta waxaan aaminsanahay oo aan qarsanahay inay jiraan saluugyo saluugyada jira horta afar jiil bay Soomaaliya ay jiilkii ugu horeeyay horta inay Soomaaliyiin ismayso ogeyn caawa waxaan ku shakisanahay inaan jiilkii hore nahay jiilkii dambe waxay sameeyeen oo ku xigay oo labaad dadaal bay sameeyeen inay Soomaaliya ay ogaadeen magac bay baxsadeen xorriyad bay raadiyeen calan bay samaysteen dalkooda ay xadaysteen inkastoo ay u suurtagali weysay inay si buuxda u wada xadaystaan waxay keeneen oo ay ka tageen dal magac leh dawladnimo leh waxa loo yaqaanoy laguna faani karo jiilkii ku xigay ayaa wax banjariyay marka jiilkaas wixii ay qaldeen intaas sixi lahayn anagoo ah jiilkii saddexaad wixii jiilkii labaadna sidii loogu lisay umaysan hambaynin jiilkii ku xigay oo annaga ahna dhaxal noomaysan reebin fiican jiilkaas waxay qaldeen intaas sixi lahayn haddaan annakii niyadda iska sii dilno oo niraano talow annaku maxaan nahay waxa waaye ma fiicno waa ayandaro waani waxaan aaminsanahay horto dhul baa naga maqan qofkana markay wax ka maqan yihiin ma dhaho cayr baan xooluhu markay dhaxaan dee sideena caadiga dadkeenu waa reemiya asalahaan xoolaha markay ka dhaxaan waxay dhahaan xoolaa iga goosmay oo iga dibaday ma dhahaan cayr baan anaga cayr ma nihin dhul baa naga maqan sidoo kaleeto waxa loo yaqaanoy dee annaga haddaan sidan caadiga iskaga noolaano waxa halkaana dhigay danta guud baan ka seexana qof walba waa lagu faanaa anigu dantaydaan aqaana caalamka wax danaysta la yira teeda kale Soomaalida waxa halkaan dhigay waa hadalkooda cadcad dadka caalamka kama jiro qofta ku yimaado ku dhahay waa ku dilaya oo Soomaali ahayn si hoos wax loo wataa si hoos aan wax u wadano nolosha caadigaana aan ka baxno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ilaa maqnaan rajeynaya بسم الله هذا أنا أسفي عني مقشان برجينيا مركب كواد وإني سلام يا دمانتين وحنا يدنكو سلام يا سلام تسلانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام مقعي وبهجة عمر أحمد وحن كمل هاي أرديدة وحكا ديقتها ودن كان يوغاندا هدي أوسو نقضو دود دينا عاوة horta waxaan ku horeynayaa su'aasheena sideedaba Soomaalidu xukumaha maadaatiisa daryeelaad kala ku dara marka anigu waxa yaani idin weydiinayaa raggiina meesha ku doodaya intii aynu yaani ka doodi lahayd faragelinta shisheeyuhu inagu hayo oo wadankeena ku hayo bal horta inaynu isweydiino banaanka yaani dalka dibadiisa intaynaan ka hadal dalka gudihiisa problemaada inaga haysta
inaynu isweydiino maxaa middaas laysu weydiin waayey. Su-aasha intaasaan kaga tegayaa. In yarna waa ku darsanayaa oo waxaan leeyahay sideedaba soomaalideenna taariikhda markii gadaal loo eego Soomaaliya berigii hore waxay lahaan jireen Soomaalidu ugaasyo, simo, boqorro, suldaamo waxaasay lahaan jireen kahor intaan dowladaha kan iyo diblomaasiga iyo wax kan aysan iman. Marka yacni dadkaasi waxay ku aasaasnaan jireen wax la yidhaahdo qabiil, waana waxaa la dhihi karaa waxyaalaha yacni ugu waaweyn ee waddankeena maanta uu la horumari la'yahay. Waxa ugu horeeya waa qaafkaas oo qabiilka ah. Yacni waxa kaloo isweydiin mudan inaan isweydiino inagoo yacni hal dada oo Soomaali islanna haddana hal af wadaagna oo inaan luuqado badan aan ku wada hadlin inaan ku hadlin oo haddana hal diin ayna wada midayso oo hal diin wada haysana oo hal midab leh dhammaanteen inaan haddana dhexdeena ka heshiin weyno. Yacni wadamada waa aragteen waxaa jira madaxweyneyaal waxay maamulayaan dad kala diina, waxay maamulaan dad kala luuqada, waxay kala maamulaan dad yacni kala duwan. Laakiin inagu intaas oo dhan ayna midayso oo wax kasta ay noo fudud yihiin baynaan horumarna samayn karin. Ma garatay? Marka anigu waxaan la jiraa qolada negative-ka sababteedana waa ku darsanayaa oo waxa weeye yacni lama diidana Soomaali waan nahay, yacni magac Soomaali waa ka nahay oo dad yacni horta waxaan taageerayaa nimankan sabootaaska taageerayaa oo qabo inay waddanku dowlad yahay Soomaaliya xorriye haysato. 1960 ka hor markii Soomaaliya calanka aan la taagin Soomaaliya waxay ahayd dal ma ahayn, calan ma lahayn, madaxweyne ma lahayn, system ayaga ay leedahay oo Soomaali ninkaas xashiiq baa madaxweyne, farmaajo madaxweyne, siyaad baa madaxweyne la leeyahay ma lahayn oo niman oo waxay u talinayay Talyaani Ingiriis Soomaaliya u talinayay. Xornimada laga sheekeynayo waxa weeye Soomaaliya inay madaxweyne yeelatay 60kii yeelatay calan yeelatay adduunka laga aqoonsan United Nations qaramada midowga Soomaaliya maanta madaxweynaheeda ama wasaaraheeda oo qayb galo oo representative nooye. Horta 26 June iyo 1 Luulyo loo dabaaldegaayo lagu sheegayo waa arrintaas. Way kala tahay independent iyo way kala tahay waddanku ma yahay yacni gudihiisa iyo faragelin ma leedahay. Faragelinta iyo way kala tahay iyo xorriyada guud way kala tahay. xorriyada guud waddanku waa halkan baasaboor Soomaaliya ku yimid oo daan xor ahayn baasaboor Soomaaliya ma soo qaateen. Inta baasaboor Soomaaliya ku jooga flag baan leeyahay adduunka keligay buu u yahay oo calan baan leeyahay Soomaaliya la yiraahdo, madaxweynaha leeyahay madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo, dal baan leeyahay dalka Soomaaliya la yiraahdo, dhul baan leeyahay dalka Soomaaliya la yiraahdo, waana four several state kala sheego intaas